hor waxa la keenay carruur Soomaaliya laba wiilood ah markaas tax la inuu inta yaro 7 jirka miya reeb garayseen ma farxumayseen carruurtii waxa dheen maya ilaahay ilan maxkamadan uu ii wadaba wax ku weyn baan la soo kulmaya arin ka weyn buu ilaahay ii wada wuxuu ila kulmiyay carruurtanayto iyo inaan carruurtan wax uu qaban waaye iyo inaan carruurtan ka daba tago ilan ilaahay baa wax igu waday carruurtii markii la qabtay carruurtii waan ka daba tagay markii wiilashii waxay ku dhaheen qaxoontiyadan ka imaanay waxaana loo soo dejiyay inaan baxayno bisha shanaad baan baxayna 2025 kala baxay ayaad ku soo degteen waxaan ku soo degnay hooyadeen inaadeerteed ruma oo habareerteen oo hooyadeen oo kale aabeen baa soo korsaday sidaas waxa marka gabadhan ay tahay ku soo degeen iyo hooyadood waa laba qof oo ilmaadeer meesha ay ku jiraana waa hal qol iyo joogiisa iyo baafkiisa iyo fadhi yar ninka guriga iskale ayaa carruurtan karaahiyeystay ay ku dhahaano odayga habaryar baas guriga soo imaaday markuu imaadana ko fadhiga frashka iskaga jiifno wuxuu yiri gurigayga maxaad ka haysiin gabadhaydaad xoog rabtin miya askar busidii ku keenay 2 kun busi wuxuu yiri carruurtanayda gabadhayda xoogeen waxaan ku yiri ma gabadhii la yiri waa la xoogay ma tamba anaa dhahaya magaceed markaas ay igu dhaaday xabsa la dhaha xabsa hooyo miya lagu xoogay wiilasha miya ku xoogay sadaqada waxa la sheegaa in faa'iido badan leedahay aad adi faa'iidooyinka aad wanaagan badan iyo samafalkan badan aad samaysay wax oo yani mucjiso ama sadaqadaas ay ku tustami jirtaa ama aad ka aragtay wiilkan hadda iga dhintay mawjadaan kugu leeyahay 10 sanadood buu xanuunsanaa uurkiisa anoo bille ma aqaani malaytatul qadar ba ma malaa'iga ani la ii soo diray ba ma wax ani un la iigu soo toosiyay ba uurkiisa anoo bille uur mucjiso weliga ma maqashay uur mucjiso ah hooyo sidaan uurka u qaadayba isagoo hal bil ah olol ba igalan jirka dhan ma seexan kari waxaan noqday qori oo kale uurkina waa bil ogo anoo habeenimadi seexan waay oo albaabka agtiisa fadhiyo ayaa 8 saac habeenimo iska soo kacay halkaas intaan iskaga tukaday dabadda hooysan u fadhiyay waxaa soo gashay maamo gaaban oo dhar cad xiran waa 8 saac habeenimo ogo 8 saac habeenimo ah meeshii waan tukaday waxaan tukado agteeda soo istaagtay waxay leedahay assalaamu calaykum salaam waxay u dhahday carruur baan haystaa way baahan yihiin wax baan ku soo doontay waan galay gudaha hooyo raashin yar baan soo aruuriyay 7,000 iyo ma qari waxaan haystay msayga maanta imaaday 10,000 ii dhiibay 2,000 waan isticmaalnay 7,000 baa meesha tahay 5,000 baan soo qabtay xaraba maamada inaan sii iyo raashinkan inaan iskugu daro meeshii anoo sida u fadhiyo lacagtii markaan la soo baxay qofkii waan waay hooyo gadaashayda waxaan qof baa sidan ii taabtay dhabarka waan sii jeedaa ogo dhabarka qof iga taabtay waxay ku dhahday uur baad leedahay Soomaha baan ku dhahay siiba Soomaalida waxay u yaqaanaan qof waliba inuu shaydaan yahay ina iyaga kaliya ay yiin dadka jannada galiyaan hooyo waaba dhaqan ay Soomaalida ay leedahay haddii hadda arkaan gabar yar oo iska qamaar la'aana waxay la soo taagan yihiin waa shaydaamad Soomaali ma waa oromo dhahan waxaad arkiyo TV maxal TikTok waxa soo galaya gabar Soomaali oo nin adoon uu qabo inkira waxa daadin waa oromo iyo booran waxa hooyo dhibkan keena waa Soomaali choice kana iyada iska leh hooyo choice keeda iska leh gabdhaha oo dadka ajaanibta guursan Soomaalida waa ma jecla ma hooyo ha jeclaan laakiin iyada dooratay ku qadari ha ku xishmay ha hooyo ha aynin hooyo qof dadkiisa dhan ay wada masaakiin laakiin dadka dabadooda iska dhisaya way dadkan dabada iska dhisaysa qaraabadan ay taa ku aasi doonta qaraabadan ay taa wax ku ah wala runta ha hooyo ma ogi dad dabada hooyo waxba kuma sheegayaan hooyo ha lagu soo noqdo dadka qaraabada gabadha sanadka ugu fiican inay guursato 20 jir 20 shab haddii ba jaamacad iska dhamayso gurigeeda ha gasho shaqo iyo masters iyo gurigeeda ha ku sugto gabar 28 jirto wiilin guursan gabar abaar miyaa ilaahay wax qeyr badan u soo dejiyo malaha calafkeeda sugaysa وأنا رضوان إساق بودكاست أفرينا ما أنت وحيل جوكتا ماما شرف له ماما خديجة شريفة إلى جوكتا شيكوين بدن قصوين بدن أي نوع هيسا سيدو كله أي رفت هذا شيك أي ربطيني سومالي لو داك تاجرتو وأصل جاري دونا أنت بلابن كهر ولي channel سبسكرايب دوكو هنا حنكا عسنا يا إن سبسكرايب سيرتي هذا ما سنت هاي ماما خديجة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيتح. الحمد لله. عبارة شيكي سنيني أنت برنامج بلابن كهر. سأو شيكيني ست هوي إيده سموكته. مركنا ماما خديجة كنا خاصة بيقول. صح. دد حجينا مام إلا أو جلسوا ماله. ما أنا ماما وحنو هاي الدنيا دون بر ماما وهاي. ماما. دتك كو أخوانين. دتك كو أخوان السير بربل ما قاعد كبلاو إياه. ما قاعد خديجة شريف بالله. بزنس ليدي بأنا هاي. أدون تروحي يقانين ماما إنجو. أوكي. ماما إنجو. ماما إنجو نوحي يقول صباح ذي. محل ده
marmarka qaarkood waxaan tagaa Kamukunji meelahanayto meel baan iska istaagaan arko chance weyn in leeyahay nafaas dhariyahaygaan la soo baxaa cuntaan kariya waan qaybiyaa caruuraha ka imaaday noodistan oo kale haddii noqoto oo ilmo uu dhahoy jaamacadda la ii diray laptop ma haysti laptopkan iibiya caruuro yaryar oo adoontanayto ay kamid ay tahay ayaa iskuuladaha dhee looga yeeraa dhee marka loo yeero mise oo boarding looga yeero lacagta ay caruurtan waxaa ka bixiyey bankiyadaha ilmihii ma haysto lacagtii uu ku bixi lahay marka uu horeysaba wuxuu rabaa bishii sanadka cusubanba waxaan siiya caruurta 5,000 kun oo shilin markay iskuuladaha kasoo noqonaya midterm la soo siiyo waxaan u diraa 2,000 kun oo shilin waa adoon iyo muslimba iima kala ani gaal iyo muslimba qofkii tabar haysa adii waa qof caawinaad u baahan waa haduu qof intuu yimaado igu dhaw mama Khadiije waxaanay taasi iiga ahaa halkanayto intaan qaban karo waan qabtaa haddaan haynina maba hayba ilaahay baa igu og waxaa kuugu soo xiga inay Soomaali horta iska dhibaataysan tahay oo loo aqoonin dhibaatadooda meeshii ka taagan tahay hadda koor waxaan ka soo baxay Karyoko markaan ka soo baxay lahabka aan sidan u gelay oo leey kale wadada isliigal oo taa hoose ka baxo guriga Sawdsi qabo maan gaarin lahabka sidan u sii gelay petrol station kaba waxaa lagu hayay caruur 12 caruur baa lagu hayay 12 ka caruur markii meesha lagu hayay nalkii gaarigan ka damiyay ninkii askarigan ku yiri bariyaakum kubwa markaas wuxuu yiri Missouri san waxaan ku yiri maxaad u haysataa caruurtanayto markaas wuxuu igu yiri bangi baan ku arkay bangi baan ku soo qabtay caruurta marka dadka aqoonida Soomaaliya waa xashiishad marka horta bangiga iyo subabawarka caruurta Soomaalida iyo caruurta yaryar oo dhan oo janzida waa lagu dhajiyo ma ogi waxay yaqaaniin qaarkood ma yaqaanin bangiga waxaan sheegay subabawer waxba kama yaqaanin laakiin soo magacii dawladda ku isticmaasho caruurta caruurtii waxaan ku yiri nalkan damiye nin askariga mid baan u yeeray midna booran buu ahaa mid Soomaali buu ahaa mid mukaan buu ahaa midna baluuyo ahaa 40 nin oo askariga kii Soomaalidan ku yiri bal soo dhawo hooyan ku wareysta caruurta maxaad haysatiin marka wuxuu igu yiri caruurta bangi baan ku soo qabanay marka isaga uu dhinac iga durqay kuwii Soomaalida caruurtan weydiiyay hooyo maxaan ilaa haystaa maxaa samaysay marka saytu wuxuu igu yiri anaka BBS baan ka soo baxayna BBS dhaxdan ay tanaga soo qabteen anako burhaan iyo meelaha u sii socono bas ninkii waxaan ku yiri ana wax idin siin caruurta sii daaya hayabu igu yiri mobilkeen baan ku yiri mobilkii 4,000 oo shilin baan ku tuuray 4,000 markaan ku tuuray wuxuu igu yiri 4 Soomaalida lagu sii soydeen caruurta waa 12 4 waa Soomaali 8na waa gaalo marka waxaan ku yiri 4 ma soo sii daynaysid ilmo baan ku yiri haddaad soo sii daynaysa u dhanyin 4 kun igu soo celi maxkamadda ayaan uga daba imaan baan ku dhahay adu waxa tiri 4 kun ku sii ay dhan ku soo wada yaga nan soo wada siidaa baan ku dhahay gaalkooda muslimkooda soo siidaa gidi baan ku dhahay wuxuu yiri lama soo sii daynayo 4 Soomaalida la soo sii dayn 8dana waan la tagayna waxaan ku yiri caloosha hooyo ilmo gaalna ma qaado Soomaalina ma qaado ilmo waa ilmo adoonta waxay dhahdaa tumbo ya mama inabebanga kila kitu inabeba ndovu inabeba simba inabeba chui inabeba kila kitu marka waxaan ku yiri soo siidaa caruurtanayto wuxuu igu yiri ninka weyn wuxuu yiri lama soo sii daynayo Soomaalida kaliya la soo sii day waxaan ku yiri Soomaalida daa soo sii dayn caruurtii baan weydiiyay hooyo sharci ma haysatiin haaba igu dhahan sharci haddaad haysatiin ay maxkamadda niyo daba imaan pelaka kotini baan ku yiri mutawapelaka kotini wapi ilan caruurtiiba weeba la tageenba intaan aniga meesha hal caruurta rooriga lagu siirtay kuwii Soomaalida ma la deem gidigood okay ilan soo lacagta soo celi baan ku yiri 4 kun igu soo celi ilan waa ceeb hooyo inaan dhaw caruur Soomaalina soo sii day kuwa yarna waa wada iyagi malaha saaxiibayiin waa la isla soo wada qabtay waa la isku soo wada qabtay waxaan weydiiyay caruurtan ma isla socoteen gaalada maya bay igu dheen marka qof waliba caruur soo qabtay waa la isu wada keenay meel baa group laga wada dhigay marka gaari baa la soo in caruurta lagu guro waxaan rabay inaan badbaadiyo si u dhan yihiin laakiin maadaama oo qof la ii yaqaano mama Enjo oo bulshada dhex socoto gaal iyo muslimba inaan caruurta Soomaalida ka bixiyo gaaladan meesha ku dayay bay la noqotay waxaan ku yiri waa peleke wato dawafata keesho kotini meesha tingeeya ilaahay ilan maxkamadan oo ii wadaba wax ku weyn baan la soo kulmaya okay arin ka weyn buu ilaahay ii wada wuxuu ila kulmiyay caruurtanayto iyo inaan caruurtan wax u qaban waaye iyo inaan caruurtan ka daba tago ilan ilaahay baa wax igu waday okay caruurtii markii la qabtay caruurtii waan ka daba tagay makadara caruurtii la geeyay keesas hor la sheegay fulani marka waa maxkamadda okay markii la sheegay la yiri hebel waxa la soo gaaray in 2 wiilood oo Soomaali la soo qabtay kuweena lama soo bixin 12 kan ani aan hor taaganahay aan leeyahay inaan ka bixiyaan raba lama keenin ka hor waxa la keenay caruur Soomaali 2 wiilood markaas taxal inuu munakubali muli rep markaas ay tahdeen maya yani Soomaali dad doonoo daawan doona jiraan soo xilin aqooni ma ogoshiin dadka inaan tayaro 7 jir ka miya rep garayseen ma farxumayseen caruurtii waxa dheen maya markaas ay tahan yiri hadii ogaan lahayn hadii ha iska dhihin kiiska in yar ku ka yaraan lahay kiiska marka lagu soo oogo aad dhahdid ha
way ka sii fiican tahay inaad dhahdi maya haddaad dhahdi maalin kasta waa lagu keeno meesha waa lagugu celcelin laakiin haddaad dhahdi labada meelood baad u kala baxaysa waa fayn mise waa dibaddaad ahaan mise gudahaad geli repping waa shaqo waa kees weyn markii meeshii aan ka baxay baan eegay caruurtii waxaan u qabto marka caruurta meeqa bilood bay meesha ku xiran yihiin inaan waraystaan raba kiiskii wuu socdaa ninkii jaajka weli uu taagan yahay dadkii 12 aan hor socday ayaa la keenay waa caruurtii xalayto aan dhahay maxkamadda haligii anaa ka daba imaan waa ka soo hormartay macnaha caruurtiiba 2 sac meesha waan joogay jaajka 3 sac iyo bar buu soo galay caruurtii markii loo yeeray ayaa wuxuu yiri ma ogoshiina nila qabtay ninkoo meel xun socotiin haabay dhaheen caruurta ma diidin caruurta gaalada waxba yaqaan waxba soo akhristeen haabay dhaheen ma ogoshiina nila qabtay 4 sac habeenimo haabay dhaheen fayna ilfu mooja waxaan yiri anaa bixinay 12 ninkii jaajka intuu eegu yiri maxaad ka shaqaysaa aan ku yiri waxba hay'ad miyaad u shaqaysaa maya dawlad miyaa ku soo dirsatay maya 12 carood miyaa taqaan haabaan ku dhaxalaytaan caruurtan la joogay marka inay halkan la keenina waan ogaa waxba kama qabatid maya wiir waxba ma qabatid maya dawlad uma shaqaysid maya hay'ad uma shaqaysid maya NGO uma shaqaysid maya waad ka bixinaysaa hay indayni ma meeno awatooy bu ku yiri meeshii markuu kiiska dhamaaday ilaa jaajku tago waxba lama soo bixinayo markuu jaajka ka baxo halka uu ka kaco ayaa prosecutor xaggaas ay tagaysa oo lacagtaad ka bixinaysid ee caruurta soo wada baxayaan markay soo wada baxeen lacagtii baan ka bixiyay waraaqyadahoodii waxoodii dhan baan dildilaacinay caruurtii u baan wada saaray sida isu wateen oo saaxiibi oo ayaan u soo saaray wixii isli baan soo saaray bajengo baan isla soo saaray sidii bay caruurta u soo wada baxeen markay soo baxeen labadii caruurood aan ku arkay meesha Soomaalida ayaan dib u sii joogay meesha stationka kuwii maxkamadda markii aan lagu yiri wax miyaad reeb garaysan wax baad faraxumayseen labada caruur oo walaalaha ayaan dib ugu noqday xaalkooda ogaado inaan xaalkooda ogaado okay ninkii baan weydiiyay caruurtan ay tan inaan xaaladooda ogaado wuxuu yiri miyaa taqaana maya baan ku yiri caruurta waa caruur Soomaali ah waa inaan ogaado xaaladooda wuxuu yiri way hadda la qaaday waxa lagu celinayaa seelka marka kale la hado 2 baan ninkii si caruurtii buu iigay caruurtii baan waraystay hooyo assalaamu calaykum salaam seetin ma fiicantiin yaa halkan idin keenay marka sidii igu dhaheen anaka waxaan ka imaanay qaxoontiyadaha marka sidii wax xoogteen baan ku dhahay ma halkan baad wax ku xoogteen mise qaxoontiyadaha wax ku soo xoogteen wuxuu igu yiri waxaan u imaanay in waxaan loo soo dejiyay inaan baxno Canadaan u soconay haye Canada goorbaad u socoteen marka sayta caruurtana aan ka soo bixinayna soontii koobe ahayd caruurtana 3 bilood bay meesha ku jira caruurtana ay xoogitaanka okay يعني ما أنت هذه محكمة دقادي سيد وحي صنت كوب أهيد وسنة كنا صار دافع لكن لبضن ويله مشكو أركيسي ده هورسكو أقواني جست هذا ويلشن كلا سوقي سوي مشكو أركيسي سدح بلود يحريه سدح بلود محكمة على أوكي أوكي كيس كودي قفكي كان ملا أركيا أوكي ما صد بس عضو أوكي وقصة تورة واسكا دقائق أوكي بروسكيتي بانكوير عرضني أنا أرنتو دينا وجادان رب مركب ويلش وحي كدهن وحي يقول قحنتي دان كإيماني وحنا لو سود شيء إنام بحينا بيش شنات بان بحينا و 2025 kala baxay okay ramadaankan wuxuu ahaa 2025 ka walaalkeen baa noo soo diray $150 markay leeyin waa walaalkeen waa nin aabood la saaxiib ah wiilkiisa ayaa u soo diray laakiin caruurta markay isku meel ku soo wada koraan Soomaalida walaal bay iska wada dhigtaan waxay dhaheen $150 buu noo soo diray inaan jakeedadaha qabowga inaan iibsano ayuu noogu soo diray lacagta halkee bitaali dahabshiil ma ka soo qaadateen wuxuu yiri waan ka soo qaadanay jakeedadaan soo iibsanay maalintii dhan waanu maqneen ayaad ku soo degteen waxaan ku soo degnay hooyadeen inaadeerteed ruma oo habareerteen oo hooyadeen oo kale aabeen baa soo korsaday ma sidaas baha marka gabadhana ay ku soo degeen iyo hooyadood waa 2 qof oo ilmaadeer meesha ay ku jiraana waa hal qol iyo joogiisa iyo baafkiisa iyo fadhi yar ninka guriga iskale ayaa caruurtan karaahiyeystay marka waxay ku dhaheen jaakadi wixii aan soo gadanay waan la imaanay galabtii anagu daalan intay geersinayaan marka intay gurigii bay ku soo noqdeen guriga habartooda u tageen section 1 weeyaan meeshan oromada ay ka buuxdo meeshii bay caruurta imaadeen jaakadii alaabtooda iyagoo isku wataan ki komba ka imaadeen iyo hal shaar iyo surwaal iyo 150 waa iska taqaan waa lacag yar hoy lacag badan ma ilaa 18 shopping yar bay soo sameysteen lacagtii gabigeeda way iscuntay waxay dhan ilaa section 1 lug baan ku imaanay lacagtii way isku dhamaatay ka komba ilaa section 1 ay deginta habartood meeshii deginta habartood qol iyo barshad bay iskaga jirtaa nin iyo 2 caroodna way haysataa waxaan ku yiri habareed numberkeeda isiya numberka hooyo iyo aabo isiya marka sababta meesha joogan si ma kaaga sheekeynayaan ay ugu dhahaano odayga habaryar baas guriga soo imaaday markuu imaadana ko fadhiga frashka iskaga jiifno wuxuu yiri gurigayga maxaad ka haysiin gabadhaydaad xoogi rabtin miya askar bu sidii ku keenay 2 kun bu wuxuu yiri caruurtanayda gabadhayda xoogeen wax weyn ba maaha meesha
carruurtidii baa gudaha loogu tuuray okay habaryartiina meeday habaryartiina wayna eegaysa maxay ninkan iiga qaban weyday ma aqaanideena carruurtii sidii bay carruurta loo geliya gudaha waa lagu tuuray aad ka taqana Kenya markaa dheer raping hata wax dhakhtar isgeynay malaha oro unbaa lagugu tuuraya carruurtii nambarka habaryartood baan ka soo qaaday nambarka hooyadoodii aabood keena baan ku yiri waxay gudeen hooyadeen way dhimatay aabaheen baan nool odaygana waa cad baan u malayn waa yeelbeeyaan carruurtanayda waxay ahaayeen ilaa 24 jir 25 jir labada wiilood oo isla dhashay waxaan ku yiri keena nambarka aabo odaygii baan habeennimadii markaan guriga imaadeen la hadlay waxaan ku yiri adeer assalaamu calaykum salaam ma carruur baa kaa xiran haabo igu yiri oo maxaad u soo aadi weyday waan ku yiri 3 bilood bay meesha ku jiraan wuxuu yiri aabo hee maxaan soo aadi waxoontiyadahan joogaay af Kenya iyo warkooda maanaa garanaya af Kenya iyo warkooda maanaa garanaya dhibka Kenya ogi dhibka Kenya iyo wixii askar ka gashay inay ka soo bixaynin bas wuxuu igu yiri carruurta way xiran yihiin waan ka samray wax Kenya galan waa laga samraa sidaas baxa waxaan ku yiri bal soo ducee anaa geli doon arintan ayta gabadhii baan la hadlay gabadhii carruurta gurigeeda laga xiray ninkeeda uu xiray ayaan gabadhii la hadlay waxaan ku yiri abaa inaan ku arkaan rabay waxay igu leedahay sheegsheeg waan baan deganay meeshaas iyo meeshaas maan u sheegin inaan carruurtanayto inaan isu soo aragnay marka aniga ahaan kaligay ayaa carruurta ayaa gabadha soo arkaya mana ku dhiin carruur aad habartii miya xiran iyo kan sheekada lama gelin waxaan ku yiri abaa inaan ku arkaan rabay waxay igu leedahay halkaas horta miyaad taqaana habaan ku aqaana waan ku yiri adiga guriga la ii tilmaa gurigii bay ii tilmaamtay gurigii baan tagay gurigii markaan tagay gabadhii baan isu soo salaanay waa isu soo baranay waxaan weydiiyay carruurta meesha ku xiran maxay yihiin marka waxay igu leedahay baayahay nin xun baa i qabaa ninkan xunna wax wali way ka suurowda ani ma joogin guriga gabar baan u tagay cilaan marsanayso aroos dhiganayso waxaan u imaaday ninkan oo askar intuu yar carruurtan gudaha ku tuuray oo marka maxaad uga qaban weyday baan ku yiri waxay igu leedahay goor mindida uusta ku tagtay ayaan ka soo gaaray markaan imaanay carruurtan wuxuu hiray galabtii anigana markaan meesha imaanay 4 saac habeenimo marka sheekadii way isku tagtay carruurtana gudaha la geeyay meesha ku xidhan aroortina maxkamadda la geeyay horaa laga sii waad ordileed baan ku dhahay waxa dhileed ninkan wuxuu yiri waa been waxay igu leedahay maya ma dhigi kariyo ninkan waa nin xun wuu idili doona ma sidaas baa hay dib carruurtii marka waxay sugayaan ina la xukumo xukuumadana 12 sanadood 15 sanadood kama yara inanta yaradana waa under age waa 7 years inanta la sheegay way yartahay 7 years gabadheer 7 years ayagana 24 iyagana 24 labada wiilood markaasay to maalinteedii labaad baan dan u tagay waxaan ku yiri ninkaada la hada waxaad ku dhahdaa inaan carruurtan meeshan ka soo bixino weeyaan carruurta way yar yihiin sponsor baa u soo baxay way tegayaan bal waqtigooda ha ka luminine carruurtan ayto aan soo sii dayno waxay igu dhahday ninkayga ku rabaa inuu ku arko waa markii 3 maalmood kadib laga joogo waxay igu dhahday ninkayga ku rabaa inuu ku arko ninkeedii ayaan tagay waxaan ku yiri maanta waa jimco berito sabtidaan idin imaan waan imaaday muddo 9 saac ay galabnimo ee tahay baan u imaaday ninkii baan arkay isagoo sigaarkiisa iska cabiyo meesha iska fadhiyo ayaa waxaan ku yiri waad raadinaysaa haye ii waran warka isi waxay igu yiri carruurta anaa xiray haye carruurta aan xiray carruurta lacag bay ku taagantay lacagta ma haysaa waxaan ku yiri meeqaadii ayaad ka rabi lahayd inaad carruurta waxay igu yiri calaa ilmihii min 150 kun calaa ilmihii inaad igu siisid weeyaan 300 kun waa inaad igu siisaa ma fahanti hadda 300 kun inaad isiisid weeyaan waxa ku yiri 300 kun ma heli karay 300 kun waa lacag badan carruurtana dumaashidaa baa dhashay baan ku yiri waa carruur yar baan ku yiri soo lagama yaabo berito gabadhan yar aad dhashay inay wiilashan ay guursadaan baan ku yiri oo sodogaad noqota seed u dhigi kartaa lacagtana la isii wuxuu igu yiri maba is guursan karaan why maba sii dhamin waan arkay hadalka meel xulin uu sii jeedo inaan hadalkii markaan la sii doodo inuu carruurta ku adkeeno waan diidana xukunkiina waa soo dhadhow ya carruurtan 3 bilood bay ku jireen kadibna waa la xukumaya ninkii waxaan ku noqday maxkamadii markaan maqlay 300 kun ninkii maxkamadan ku noqday ma weydiisay marka intaan ninkan maxkamadda ku laaban ma weydiisay way 300 kun ugu rabtaa maxaas u xirtay waan barabaaba in la siiyo shaqadayda ma buu yiri maxaa gurigayga keenay gurigayga waa yar qol iyo barsad buu yiri anigana nin aragiisa ma arki kariba fadhiganayto maxay u jijiifeen waxaan ku yiri marka gabadha miya ka xoogeen taa sayto wax la isweydiinay ma waxaan arkay hadalkiisa si u qaloocan hadalkiisa si u xun hadalku marka qof yani si kale u socdo inuu waa dareen waan ka aamusay waxaan dhahay hadalkan haddaan anigana la hadlo oo aan la doodo ninkanayto meel xun buu arrintan carruurta way ku xumaan kartaa waan iska aamusay waxba uma jawaabin waan ka imaaday waxaan maalinteedii labaad sabti bay ahayd waan joogay isniintii waxaan tagay maxkamaddii ninkii inankan yar jaajkii ayaan u tagay
prosecutaan la hadlo waxaan ku yiri jaajka rabaa inaan arko wuxuu yiri marka keesku dhamaado gadaal bay fariistaan xagga ugu tag xagga siita markaan ugu tagay isagoo meesha ku jira waxaan ku yiri jaajina taka ku kuona mimi wewe ni yule maamul ya chili watoto 12 wajigeega wali uu haysta way xasuustay isla markii way xasuustay wuxuu yiri maamadii maalintii 12 carood soo sii deynaysa soomatiida haa markaan ku weydiina xad igu dhahday caloosha hooyo ma qaado gaal iyo muslim ana ka wada dhalna carruurtan ha weeni maama mzuri kuja karibu ndani buu yiri marka arin buu ilaahay meesha ka waday inaan 12 kan carrood aan raaco oo wiilashan aan meesha ka soo badbaadiyo anigana ninkii jaajka qol buu tusay wuxuu yiri soo galalkan waan la fariisto waxaan ku yiri carruurtan ay meesha qalad bay ugu xiran yihiin maxaa ku dhaxday waxaan ku yiri reerkii ii direen baan u tagay haye waxaan ku yiri ninka waa nin iska muqayla sigaar caba wuxuu kala og yahay ma laha baan ku yiri marka carruurtan ay to aqiyaarkiisu meeshan ugu soo tuuray wuxuu og yahay Kenya inuu sharci ka lahayn Kenya inay sharci ba lahayn buu og yahay wuxuu yiri mid baan ku qaban karaa inaad maama fiican atidna ku jeeda haye tag buu yiri iyada sharcigeeda isaga sharcigiisa ka soo duub looyarka u tag warqad ka soo qor inay dhahayaan si qalad baan carruurtan u xirnay iyaga ma akhrin qaanan waxaan ku yiri waxba ma akhrin qaanan waxba ma qori yaqaanin saynka ka soo saar biiguur saynka ka soo saar lawyer baan u tagay 5,000 shilin baan bixiyay waraaq qurux badan buu ii qoray wuxuu in carruurta qalad ay meesha u imaadeen oo ninkan uu iska muqaadiraysanaa oo edabdaradiisu meesha carruurta ugu xareeyay wixii baa la soo qoray waxaan ku dhahayo waa ogolaynaan lacagta bixiyo 300,000 ininkana warqadan ba sayn gareynaysiin sharcigaada iyo sharcigeedaada siinaysa ninka wuxuu yiri aniga sharci ma haysta basaboor Soomaaliyan haysta basaboorkaada aad siin baa ku dhaanigana waxaan rabaa inaan ka sawiro gabadha waxaan ku yiri keen adigana sharcigaada gabadhana sharcigeedii baan ka sawirtay photocopy waan ka bixiyay waraaqdii baan ku dhajiyay ninkii judge-kan u geeyay wuxuu yiri carruurtan waxa la keeni doona 18 ilaa 19 lawyerka waxaan weydiin doonaa advocate-ka marka la keenayo inaad meesha imaatid weeyaan warqadii iyo wax waliba waan u gudbisiyay meeshii markaan tagnay ninkii judge-ka carruurtii buu ninka prosecutor ka wareystay wuxuu yiri carruurtan waa la sii daynay judge-ka wuxuu yiri shaqadan oo dhan haddaan kuu qabto aniga maxaad isiin judge-kii weeyaan isagana gorgortan buu soo galay gorgortan kalena waa ka soo baxnay ogo gorgortankii ninkan 300,000 waa ka soo baxnay judge-kana wuxuu yiri waan kuu shaqayn warqadaadaan u jeedaa iyaga nambaradooda aan u jeeday inuu ku dhajisan yahay telefoonadooda wuxuuda dhan waan keenay kibandarkooda basaboorkooda gadi waan ku soo dhiftay photocopy waa ku dhajiyay hadalkooda dhan waan keenay waa la soo si inaan anaka qaladka lahayn carruurtan waxay reeb gareeyeen malaha ninka iska ahaa wax kale waa la soo qoray adiga warqadii waa la soo habeeyay ayaga marka ogaalkooda ma lagu qoray mise idinka u af Soomaaliya maya ana u soo qoray ma waa ogaay laakiin ogiin inay qorayaan inay sayn gareynayaan ha sida carruurta loo soo sii daayo wala socdaan waanu sheegay lacag qaadanaysiin lacag baad qaadanaysiin soo inkana warqadan baad isay gareynaysiin weeyaan warqada marka ma ogin inay ku qoran tahay oo kale inaan anaka qalad ka geeyna ha waa oginta si fiican kuma sheegay ha warqadan iyo lacagtan way isla socotaa 300,000 ma rabtaa ha wax ma iga dhimin waxaan u gorgortamaynaa sidii ma aragtay markay dadka shaambada iyo beeraha kala iibsanayaan waa sii soco wuxuu igu yiri waan ogolahay bas wuxuu igu yiri 300,000 ala ilmihi min 150 dhima laha waa fikiray gaari KDH baan haystay oo blue ah dadka gaarisa loo joodan baa wada yaqaanaan beelaha sitaan istaajiya nin markii hore rabay inuu iga iibsado oo aan ku adkay aan ku yiri lacagta ku soo dir ayaan ku yiri kaale ku qaado 650 markii horena muxuu lacagta qiimihiisa ahaa 850 aan gaariga ku bixiyo laakiin maadaama arin degdeg ah meeshan soo gashay oo xukuumadii carruurtan ay ku dhowdahay gaari wuxuu ii sheegi malaha labadan carruur inaan noloshooda aan badbaadiya gaariga ilaahay baa keeni doona ilaahay baan u qabnaa markii hore ilaahay baa keenay gaarigii waxaan ku iibiyay 650 ninkan Soomaalida 300,000 baan siiyay prosecutor shakadan soo waday oo soo dhaweeyay kiiska carruurta 50,000 buu iga cunay ninkii judge-kana 200,000 buu iga cunay maxaa iga baxday 550 waa sida ay ku baxday judge-kiina wuxuu ku leeyahay wax ii garan maxaad ii garan ala ilmihii min 100 markii hore wuxuu igu yiri isaga 400 mise 500,000 iisi waxaan ku yiri meel aan ka keeni malaha carruurtan iyo aniga isma naqaano carruurtan baan ka xumaa meesha ku jira wuxuu igu yiri maxaad u diidan tahay inay jeelka ay galaan maalintii waan u jeeday inaad carruurta u diidanayd inay gudaha ay galaan hal bil un bay qaadan waxaan ku yiri weli qof jeelka ka soo baxay oo isagoo nabad soo baxay lama arkin baan ku dhahay wiilasha nooyta waxaan ku yiri haddii galaan iyagoo qaniisiin bay soo bixi doonaan iyagoo la soo farxumeeyo dabada laga soo fuulay soo bixi doonaan marka uma fiicna baan ku yiri totally uma fiicna baan ku yiri anaka haddaan Soomaali nahay horta jeelalkan ay tahay uqdad baanu ka qabnaa baan ku dhahay aniga wiili habartay dhashay ayaa hooyadiis aabiis buu dilay markuu aabiis u dilay isyo la wayaan waa la xiray yarkii markuu soo baxay wuxuu soo baxay isagoo wax kale ah marka uqdad baan ba ka qabaaba markaan maqlo qof jeelka loo wado waxaan ku dhahay qofka ka daa
meelahana iska budboodaan hana wareeriyaan iska daabay geyn baan ku dhaha qofka ilaan uqudadu weyn baan ka qabaa jeelalkan caruurta la geynayaan meeshaas wax qeyr badan laguma soo baranayo inta ilmo oo ka soo baxday oo soo baxay iyagoo lasoo farxumeeyey oo wax waliba lagu soo sameeyey ayaa banaanka taagan baa ku dheh marka ina meesha taagnaadaan maba rabi baan ku dheh caruurtan Soomaaliya ka soo bixiyo weyaan ninkii 300 ma siiyo waraaqdii ma ka soo sameeyey waxaan sugayaa marka caruurta marka 17 arrintan waxay noo maraysaa 8 iyo 9 kan marayn iyo reerkan iyo lacagta aan siinay gaariga aan iibinay wax waliba aan gelay caruurtii ninkii wuxuu igu yiri berito maxkamadda imaam caruurta kiiskooda waan soo dhaweynay 200 oo judge kan wuxuu igu yiri mobilka iguma siin kartid cash baad ii siin ninka kale oo nahaamkan wuxuu igu yiri cash kaad igu siin ma aqaaniyaa ku yiri mobiladaha waa la isku qabanaya waa cabsanaya kan Soomaalidana wuxuu igu yiri cash baad igu keeni doonta lacag laakiin waa sawiray gacantiisana kuma sawirin markaan qaaday baqshada aan kuridaa aan ka sawirayayba waan u geeyay 300 kun gabadhii baan la hadlay waxaan ku yiri lacagtii waan siiyay ninkaada hayay adiga familkaada ilaan caruurtan ay tabarid baad u tahay walaasha in adeerta baa dhashay sidee reerkan ay ku qaadanayaan baan ku yiri caruurtan meel xun baad ku tuurtay hooyo ma qabaan waa rajooyin berito caruurtan hadee weynaadaan inaad habareer dhihi doontid mise eedo aad dhihi doontid wax ii soo dira iyo habareer waan baahanahay iyo waan bukaa halkeed dhigtay waxaan oo dhan baan ku dhahay waxay ugu dhahdaa baay ninkan ay tuma u jeedaha ninkan un baa dab i gelinaya ani meel waliba hadduu dab ku gelinayso iskama furi kartid baan ku yiri Soomaali oo dhan 90% waa wada garoob baan ku yiri waa wada single baan ku yiri wayna cunaan wayna cabaan caruurna iskuul bay geystaan baan ku yiri naftaada ha ka dhigin qasab inaad la joogtid ninkan markuusan u xinyaa baan ku yiri hadduuba meelahan oo kale kugu tuuray qofkii adi marti ku ah oo qaraabadaada u leeyahay wax bay reeb gareeyeen oo gudaha ku tuuray berito hooyada iyo aabahan albaabkaada ma soo geli doonaan baan ku dhahay qofka xun waa la gooyaa baan ku yiri hilibka marka la iibsado baan ku yiri markuu qanjirka iyo qashinka ku jiro soo kama gooyno hilibka fiican baan dabka saaranaa qofkana waa sidaa baan ku yiri ha isku qasbin qofka markuu xun yahay guriga maanta lacagta geynayay ninka inanta yar buu sigaar u diray gabadh yar oo la soo xoogay ulaha waa la xoogay sigaar buu u diray markay imaatay waxaan arkay inay waxay igu dhahay 2 carood baan haystaa marka hal ilmo waa kan gurguuranayo marka qofkan maqan buu noqon ilmaha la yiri waa la soo xoogay inanta yar oo sigaar 5 xabbood san gacanta ugu wada soo gashay markaas ay waxaan ku yiri maxaad inanta yar sigaarka ugu dirtay marka wuxuu igu yiri sigaar ma isaga ceeba berito hadee rabto iska cabi kartaa waa waalidooga qofka waxa dhahay berito hadee rabto iska cabi kartaa buu igu yiri markaas ay waxaan ku yiri kuma fiicno oo inaad inan yar inaad sigaarka u dirtid ee gacanta ku soo qaado oo gabar yar baan ku yiri adiga waa doonan kartaa baan ku yiri mise xaaskaadaba u dirso baan ku yiri laakiin iyada waa gabar yar sigaarkii inantii yareed markay saa u keentay waxaan ku yiri ma gabadhii la yiri waa la xoogay ma tamba anaa dhahaya magaceed markaas igu dhaaday xabsaa la dhaha xabsa he hooyo he miya lagu xoogay wiilasha miya ku xoogay maya bay igu dhaaday aabaa yiri way xoogeen waa gabadhii yareed gabadhii way fadhiday odaygan wuu fadhiyay sigaarku sugay gurigan waa qol iyo bersad oo yar yar guri adoomay weeyaan marka waxaan ku yiri xabsa he wiilasha miya ku xoogeen intay soo agistaagtay sigaarkan isaga qaan wuxuu yiri may xoogin aabaa yiri way xoogeen ani imay xoogin dugsigan ku maqna maan joogin marka arinta inay been tahay oo wax la xoogay meesha aysan jirin oo laakiin se ninkan ay to oo nin iska qaylay oo xishood iyo xaya iyo Soomaali dhaqankooda ka tagay inuu yahay baad iska garanaysaa sax ha wiila gorgortamay lacagtii 300 baan siiyay caruurta 2 week kadib jeelkii waan ka soo siiday markii laga soo siiday gurigaygaan keenay caruurtii shopping baan u sameeyay wixii laga rabay dabada inay la tagaan garfeed baa ugu yar waan u iibiyay waa saliid waa qashin aan u iibininba caruurta malaha ma jakeedada markii hore Kikomba bay ka soo iibsadeen Mr Price bangi wax aan u iibinin ciil dartiisa iyo ninkan waxa yiri shilinkan markii hore Soomaaliya waxaad cimro ku tagi rabtay gabigiisaba gub ha ku dhaafaan caruurtii shopping bangi waan diyaari baskan saare 2 week markii soo nasteen ee qaboobeen aan ku yiri dadna ha u sheegina waxan oo kale hadaa la dhoo wax bay xoogeen iyo waxan baa jeelka lagu geey hata dibadaha waxa la dhigi karaan hadda ka hor bay Kenya wax ku soo xoogeen arintaas ay tahay in daba gali doontaan ku dhahay marka afkiinaba haba ka soo saarina waxan oo kale baan ku dhahay afka xirta dhahay ha afka xirta caruurtii baa imaade waxaan ku yiri habartiina soo salaamo waxaan ku dhahay habareerey waa maadsan tahay waa markay kula joogeen cabaar markay la joogeen waxaan ku dhahay berito dad bixisiin maanta taga u baan ugu yeeray waxaan ku yiri caruurta gee oo na soo celi way u tageen waxay ku dhahay habro mahadsanta ilaan iyadii hadee sheekada noo soo fududaynin sheekadan way si adkaan lahayd ayada nafteeda waa si bay la shaqeeyay ha iyadana way nala shaqeysay maadaama ninkan 300 nagu sheegtay inaga qabanin inagu sii daysay 300 na laga qaaday intaas ay taadeen naga qabal wax weyn bay noo qabatay caruurtii waxaan ku dhahay u taga waa habareertiin hooyadin bay ilmaadeen ruma ay yihiin caruurtii way u tageen way la soo hadleen waxay ku dhahay habro waan tagayna waana la soo siiday habro waa ku maasanta laakiin si gudaha ma gelin dabadii ugu yeereen
dabadda ay ula hadleen waxay ku dhahan hawr waan tegayna hawr waa mahadsantahay waan tegayna haye bay ku dhahan hawr way oyday gabadha aad bay u oyday gabadha habrarti aad bay u oyday gabadha haa 3 bilood iyo wiigag bay carruurta ku jireen bishii afraad bay liqayeen haddana gudaha haddaan anaga ka soo gaarin ilaahay meesha uu noo dirin maamadii waxay dhahday gabadhii odaygii baan ku yiri carruurta way soo socdaan berito way soo baxayaan waxay yiri adeero he wixii cirka iyo dhulka laga rabay oo dhan baan adeero kugu duceeyey waxaan kugu leeyahay wixii Kenya soo galo kama bixi jirin adigoo gabarba ka soo bixisa ku yiri waxa iga ka baxay ogi odayga waa sii soco waa soo soco waa ninka wuxuu yiri 200 ma qaadan 300 baan jaajkii lacag buu rabaa proskiti lacag beerabaan mu sheegin maya ma ku dhihin waxa sayto wiilasha tama oga maya wiilasha way ogyihiin gaariga iibiyo oo gaariga waan iibiyo lacagta iyaga waxaan ku soo siiday lacagta gaariga gabigiisa gaarigan ku rabay 850 kun waxaan ku iibiyay 650 waa u xaraashtay qofkii hadda uu arko gaari salooj maama khadija mee gaarigaadi ka idhi heej waxaan ku yiri gaariga waa la liqay gabigiisa waxa loo dadeed buu galay laksmeel fiican waxaan ka cunay mala 550 gacan dadeed buu galay wiilashii waa dirtay carruurtii waan diray way tageen carruurtii way bixeen Canada galeen Canada galeen bishii shanaad bay Canada galeen taariikh 3 mise taariikh 4 Canada galeen carruurtaas ayto telefoonadooda ma hay waxba ma hay laakiin waxaan leeyahay meel ay tagaanba marka halkan ay igala hadlayeen telefoonadooda wuxuu ahaa iska taqaana ilmo iska rafaadsan waxay iska haysteen telefoonada iska yaryar WhatsApp mee qabin ana waxaan ku yiri hooyo waxaan idin tarayo ma haynaad aniga wax barito igu soo celisin mise Canada aan tagnay maama qadija kan noo qabatay maya baan ku yiri ani fi sibilila baan waxaan u qabanay maadaama qof kale aanu qaban karo oo gaal kale aanu qaban karo ee ininka carruur Soomaali ah xaqay guleedin qaban baan ku yiri ha habareer baan idin hay hooyaan idin hay horta sidii bay ku baxay xataa muhiimada qisada u sheegaysa ma ahan waxa qabatay waxa waa dadka isdulminaya maya inay Soomaali ee dulul ay tahay Soomaalida aad iyo aad bay dadka u dulmisaa hooy imagine qof qaraabanimo kugu imaado inaa xirtay horta Nairobi ma tahay Nairobi qaraabo ma ogola Nairobi ma ogola marti haddaad imaato waxaad arki kartaa ilmo eedadii 8 saac habeenimo banaanka ay dhigtay arro badan baan ku aragnaa banaanaadaha ilan waan soconaa naka Nairobi marka la dhaho gaarisa haddaad tagtid marti isma diido noodistan dhan ilaa banaanaadaha la seexda habeennimadii koobka shaah la kariyo waa la wada cabaya iyo isyolo iyo meel waliba Nairobi hooyo Nairobi dad ma ogola hooyo Nairobi qofka qaraabada oo kugu dhow banaanka dhigaysa 8 saac habeenimo waxa ay sheegtay Soomaalida qofka markii dhinto kale in loo imaado laakiin markuu xanuunsan yahay iyo markii tabar hayso kale qofna agtiisa imaanin qofka Soomaalida hooyo gabar baan hadda ka hor la kulmay Sheekh Shandri bay deganeed carruurteeda lagu soo oogay inay wax reeb gareeyeen tiimiyamsto kale maya waa mid kale way badniin waxaas marka gabadhii yareed iyo hooyadeed oo isla socdaa police station ka tageen waxay ku dhaheen ninka oo siyaska oo Sheekh Shandri joogo waxaan carruurteeda la soo xoogay gabadheeda yar baa la soo ciyaar soo xoogay saddexdan ciyaalna hal hooyaa dhashay gabadha Sharaaf oo daris la ah gabadha waxa lima Sharif la dhaho ayaa waxay ku dhahday gabadh dumaashida baan hayaa nambarkeeda oo dadka wax u qabato ay Khadija Sharif baa la dhahay Saudi hadda deganta gabadhii baa soo waxay wareeday dumaashis ka waran oo mi khadra la yidhaha Sheekh Shandri baan jooga carruurteeda lagu soo eeday inay gabar yar xoogeen maamadana waa maama iska dulmi badan maamada estetkiin ay ku dhimataan mana waa taqaan maamada waa qana bisti wata sayto gabadheedu waa miya waa gabadheeda aniga iskuul baan soo akhrisanay isyolo soo class 8 waan soo bugnay waana isdili jiro waan isna qaniis la level matiin ha isku meel baan ka imaanay isku magaalaan ka imaanay marka sayto ayaan telefoonkan u soo diray waxaan ku yiri yarteer aan bixin qarashkeeda dhakhtarka hala geeyo inaan ilmaha yar inaa xaqiisa lagu joogsado ma hadday gabar tahay hala soo ogaado baan ku yiri markay maqashay inaan aniga hadlayo waxay leedahay ilmo dhakhtar la geeyna ma laha wax meel la tegina ma laha lacagta hadaa miiska la soo saarin marka maamadan kale waa murale carruurteedana waa habar gidir gabadhanayto waxay rabtay in reerkanayto lacag bay haystaan murlaha habar gidirta marka la isku daro marka lacagtan way bixin karaan waxay leedahay lacag baan u baahanahay soo ilmaha yar kama muhiimsana baan ku yiri inaan dhakhtarka geeyno oo ilmaha yar la soo eego maya bay dhahday ma diiday baan ku dhahaa oo siyaskii baan toosoo la hadlay waxaan ku yiri ha ogolaato ilmaha yar inaad dhakhtarka la geeyo waa gabar yar hala soo ogaado run iyo been waxay tahay marka waxay igu yiri si tunajua huyu mama sana si tunaelewa huyu mama utafanya vile anataka ama mpelekane kotini tuko tayari kupelekana kotini baan ku yiri na apeleke mtoto hospitali markii dambe ayuu nin ka weyn ba imaaday hospidimia marka saytu yiri mama he kiiskana na dhamay doona 5,000 shilin ku soo tuur mobilkeyga 5,000 baan ku soo tuuray iyadina banaanka loo tuuray gabadhii murlaha ayaa telefoon ii soo dirtay
ilaa 8 saac markii la qabtay ilaa 11 dadkoodii wacaysa qof maamadan la hadlay malaha waxay u leedahay maanta dhan qaraabada dhan baan wacay haye wax telefoonka iga qabtay malaha gidigooda way igu wada cabeen abaayo wax itar wixii baan taray oo CSK 5 baan u diray oo SPD 5 baan u diray askari sheekada ku jira ayaan 2 u diray oo 3 gabadhii baan markaan banaanka gabadhii keenay ayay u leedahay waxaan carto dana dabka u saarto ma haysti mobilka maxaa ku jira markaa 3700 3,000 baan dana iyada ku tuuray 700 waxaan bal kaale adiga kaarka siiso inta berito laga gaarayo gabadhii sidii ay u joogtay waan isbaranay weligeed maan arkin labada indhood maan saar inay gaabanta inay dheerta gabadha maaqani gabadhan aan seerka aan ka soo bixinayno oo carruurteeda dhibka loo geystay okay so ma ayda la xiray mis carruurtana inta la wiilasha gudaha lagu tuuray okay 8 saac baa la xiray 12 baa marka si telefoonada u dirsanaysa subaxii maya sanaane amchana okay galabtii casarka ilaa 5 ayaa gabadha meesha ku jirtay gabadhii baan dabada keenay markaan keenay waxay leedahay waxaan carruurta dabka u saartay ma haysti gabadha maxaa lagu haystaa markaa maya waa carruurteedii way la soo baxday hadda oo speedigi carruurtii soo bixiyay kiiskii banaanka loo soo tuuray gabadha naagtii waa la eriyay tookaapa waa lagu yiri igeesi hayna maana kama meekatam dota pelek hospitali sidee markay gabadha ku imaatay gabadhii way kadib way xanuunsatay gabadha carruurta dhashay wiilasha oo khadra la dhaho way xanuunsatay gabadhii dhakhtarka la geeyay dhakhtaradahan isli kamida waxay ku jirtay 18 maalmood gabadhii naadirta waxay ku leedahay gabadhii aad maalintii wuxuu qabatay way xanuunsanaysa markaan imaan doono dhakhtarka waan soo eegi doonaan jira balka ale soo ark qofkeed wuxuu qabatay hata indhaheedana ma taqaaniya gaabanteeda kaale gabadha soo beritaan soo arki doono gabadhii habeennimadii bay dhimatay ilaahay wallaahi bilaahi hooy gabadhii ma dhimatay waxaa la keenay sawdsi masjid nuurka la sheegona aniga meydadka dadka la dhaqa gabdhihii ma ogeed haashim uu dili jiray dadkii dhaqay ayaan ahay haashim dadkuu dili jiray anaa dhaqa waxaan u dhaqay hooyo gabadha meydadka dhaqdo waxaa la siiyaa 2,000 shilin markuu qof la dhaqona 2,000 Kenya money halkii meydka markay dhaqdo markay u yeerto naagaha masjid salaam oo kale oo sawdsiga kun bay u kala qaybsadaan waxaan ku yiri maanta sidoo 2,000 oo kugu soo haro aniga ku jooga aniga un koolka yaadi soo si meyd bayal anaa kula wada dhaqi 5 shilin kaamara bibaan ku dheh mid yar ani aan dhalay oo nursing samaynayso 20 jira ayaa hore ii siracda furaha gaarigan soo qaadan orod baan ku tagnaa waan dhaqnaa salaam baan ka soo dhaqnaa sidee gabadhan bal 2,000 ugu harto hadeeba maadaama intan ay bataay wax la siinayo gabadhii markaan la soo dhaqo markaas waxay igu dhahday Khadija gabadhii baa dhimatay khadra gabadhii baan tagay inaan soo eegaan rabay meydkii horteyda la duuduubay gabadhii baan ku yiri inaan gabadhan arkaan rabo gabadhan ay inaan arkaan rabo maradii baa la ii feeday gabigeeda waa qof yar wixii meesha imaaday hooyo gabadha markii habeennimadii ay dhimatay aroortii 4 saac baa meesha laga soo bixiyay 1.1 ayaa laga soo bixiyay laakiin shalay dhakhtarkii baa laga soo bixiyay oo lacag lagu lahaadaba lacagtii 18 maalmood 1.1 waa $10,000 ha gabadhii markii dhakhtarka laga soo bixiyay gabadhaasaytu markay dhibaataysanad hooyo wax eegi jiray malaha wax u tiri jiray malaha wax nuuq u dhii jiray malaha markii dhimatay meydkeedii orod baa lagu soo bixinaya halkee la jooga hooyo Soomaaliya halkee joogto hooyo ya hadda markaan aniga aan adduunka joogo dad wax isiin weydo hooyo waay markaan aniga dhinto meydkeeda loo ordayso waa jay nuke ha daa meesha ku uray ya marka Soomaaliya hooyo waa dadka ugu xun Soomaalida ayaa weeyaan ani hadda aan ku sheego hooyo waxaan haystay wiil yar oo xanuunsan wiilka yar oo xanuunsan waxaan la rafaaday wiilkaasayto ilaa 10 sanadood 10 sanadood qof intuu ii imaado igu dhaho inanka yararkii laga hayaa ma arkin ona family weyn wiilmahan ka dhashay wax intuu ii imaado igu dhaho inankan sidee loo hayaa ma arkin wadada markaan ku arko Khadija waran sidee tahay ma fiicanahay carruurtii sayin carruurta way ladan wax intuu iga daba imaado 10 sanadood ilmaha xanuunsan aan haystay qof intuu ii imaado ii wareystay ilmaha yar halkii laga hayaa ma arkin maalintuu dhintay ayaan ku soo qabanaya maalintuu dhintay 12 aroornimo warqadii death certificate iyagoo hayaan bay hooyo ii keeneen meydkii qaadi rabaan familkii inanka dhalay booliista iyo meelaha chiefka ilaa 3 saac 4 saac ma shaqeeyaan Soomaa laakiin anaka 12 aroornimo warqadii waa la hayay maxay ku tusaysaa hooyo 10 sanadood ilmaha yar aan la rafaadsanaa wax weligiis igu yiri Khadija ilmaha halkii laga hayaa ma arkin ilmaha sidee loo hayaa ma arkin ya 12 aroornimo warqadii death certificate baa la hayay ambulance-kina banaanku ii taaganya
meel ay ka imaadeen iyo meel kale saas ita loo buuxsamaday inta inan kaayar 10 sanadood aan hayayna wax weligiis i weydiilma hayr sidee loo hayaa malaaway marka Soomaali horta wad kuwas Soomaalida lagu sheegayo horta waa kuwas wiilka xanuun nooc waxa lagu soo dhacay isagoo 4 jir ah ilaa 12 sanadood India geewan kala soo noqday wuxuu qabay cudurka la dhoo masos dadka muruqa u dhalanin jirkiisa waa laf iyo hilib kaliya ha ma qabo masos baa ma taqaanaa dhaqdhaqaaq ha isaga Kenya dhaqdhaqaaqi ma qabo wiilkii uu ku fadhiya hadduu halkan aad ugu imaatad guriga albaabka ka soo gashay ninka ugu qurux badan guriga ugu caafimaad qabo waa isaga laakiin ma istaagayo ma soconayo fadhigiisa caadi iska qoslaya iska fadhiya uu qoslaya bahalkiisu ku ciyaaraya gamekiisa TV-giisa weyn buu meesha iska shidanaya qofkii guriga soo galan wuxuu leeyahay yaa jooga soo gal habareer buu kugu dhibsi eedo soo gal hadda wuu dhintay 10 jir buu ku dhintay Allah u naxariisto maxaan waxaan ku leeyahay Soomaali wakaas taas waan ka soo tagnay maama ayaa Mandera ka imaatay Mandera markii ka imaatay maamada waa la soo balamiyay governor iyo senator iyo bunges ayaa meesha tageen way soo balamiyeen waxay ku dhigeen Nairobi nooga daba kale caartaan shaqo ku siinayna malaha waa maamooyinka campaign-ka u kulul oo xagga wax ka qabto halkan markay imaatay maamadii campaign-kii halkan ay taxlagu yiri Nairobi nooga daba kale Nairobi bay imaatay maamadii Nairobi markay imaatay maamadii gabadh ee dow tahay bay ku soo degtay waa Shakeshandri weeyaan markaas maamadii waxay soo qaadatay marka waxay ku aragtay dadkan waxay ku aragtay Mandera markay Mandera waxay ku dheen nooga daba kaalay Nairobi laba carood baa malaha fonfo u dhameeyay jaamacad waxay ku dheen shaqaan ku siinayna caruurii bay rabaan inay shaqo loo siiyo waraaqyadii iyo wixii dhan bay soo qaadatay caruurta ilay halkan markay imaatay gabadhii eedada tahay bay ku dhaxday gurigiisa iidir ilan way sii qanreen noodista gurigii baa loo tilmaamay maamadii waa la geeyay maamadii si loo sii waday meel duleelun baa laga eegay waxa lagu yiri hebel ma joogo aroortii bay tagtay aroortii ma joogo markaad albaabka laga yiri maamadii way soo noqotay pikipiki bay dhaxda ku artay pikipikigii meesha ka raaci lahayd pikipikigii wuxuu ku yiri maamaha uko na pesa ngapi kukupeleka mpaka shilingi 1000 waa meel 250 uu ka qaadan lahaa wuxuu arkay qofkan inay iska tahay qof yani Nairobi ahaan oo waa dhici kartaa maamadii si ayron buu borsadii sidan uu ka siiyay waa la dhaqaajiyay wixii waraaq ku jirtay waa kii pikipikigii hor taagneed pikipikigii maamadii iyo borsadii iyo waraaqyadii caruurta dhan certificate-yadii oo dhan buu la wada goostay uu kala tagay maamadii ha alaabtii oo dhan uu kala tagay marka waxay arkaysay inay 3,000 ee 100 shilin ee ka bixinaysay meesha maamada wax farfaaraysay markay meesha taagneed lacagtii iyo borsadii oo dhan buu la wada goostay uu kala tagay maamada maamadii iyadoo meel cidla taagan ayaan aniga la soo maray gaariga inanta yar baan iskuulkii Westlands waan soo noqday maamadii baan arkay dad ay ku yoomayeen waxaan yiri konini mama mismamba gaariga intaan meel istaajaan ku yiri konini mama mismamba waxa la igu yiri maamadan ay tonin pikipiki alaabtiisa dhan maamadii kala goostay oo carray maamadii baan ku yiri hooyo guriga ma taqaan meesha hada Sacuudi haba igu dadaalkii Shakeshandri soo bax baan ku dhahay maamadii gurigan keenay wayna satay intaan cunay casar baan tutukanay guriga gashay waan keenay Shakeshandri baan keenay gurigii markaan sidaan aanu keenay gabadhii ku soo degtay 2 maalmood ka hor eedii u tahay gabadhii waxay dhahday guriga way ka gurtay markaan anaka tagnay gurigii gabadhii way ka gurtaa la yiri laakiin si guduhu ka xiran yahay in lagu jiro waad u jeedaa oo qof guuray ma laha maamadii waxaan ku yiri habar yar gabadhan maxay ku ahayd gabadha eeda in adeerkay baa dhalay masaas baa hayna ka iman ku yiri guriga maadaama la yiri gabadhii way gurtay maamadii adiga gurigeeda ku soo dhaweysay ani gurigaygaan geeyay waa soo wad cunteysay inta soo cunay casar baan soo tukanay waxaan ku yiri jaamka markuu hadda kala haro islii waan u boodayna jogo road baan ka dhacay ilaa Shakeshandri baan galnay maamadii baa i kaxaysay halkan ka gal dabaqan sidii baan ku galnay gurigii markaan tagnay dariska ayaa maamada buursadeedii u keenay maama gabadhii waxay dhahday waan safrayo safar orod baa i soo galay laakiin guriga markaad artid waa lagu jiraa shanqara maqlay shanqar maamada waxaan ku yiri hooyo waa iska shuqul Nairobi martida ma jecla soo bax waan ku dhahay wax kale aan ma laha maamada meesha uga ma tagay waa ceeb meesha waa Nairobi soo bax waan ku yiri hooyo sawtii baan maamadii ku celiyay maamadii baa ila joogtay marka waxaan ku yiri hooyo danta weyn aad kala heed embiyadahan maxay ahayd iyo gafanayaasha senatayaasha marka waxay ku dhaheen mid wuxuu igu yiri caruurta shaqo iisin 3 wiilood haye talabaadna waxay igu dhaheen wax yar ad business aad ka dhigatay shaqo ayaan ku siineen waxaan ku yiri awal maxaad ka shaqayn jirtay waxay igu dhaheen awal waxaan ka shaqayn jiray bacadlaha dadka duruucda baatiga iyo waxaan iibiyanahay marka shaqadiina mid shaqadii way iscuntay bay igu dhaheen caruurta san school fees ooga bixinay meel kale wax naga soo galay malaha halka kaliya lacagtii sidii bay ku boodbooday maamadii waxay la joogtay numberkii MB-gan ku dhufanay na lagama qabanay governor waan ku dhufanay na lagama qabanay senator waan ku dhufanay na lagama qabanay message-yadan qoray
wax soo celinaya malaha waxaan ku yidhi hooyahe weeks ani lama joogtid ha gabadheed eedad oo hedna waad ka soo tagtay ha arrinkeen hadda Mandera miyaad ku noqon baskan kuu soo jaraa ama diyaarad baan kuu soo jaraa saa jeceshid bal ii sheeg maamadii habeen kasta salaatu leyl bay tukan jirtay aniga markaan soo kaco way soo kacaysaa dibadaan iska fariisanayna makeekada inaan iska dhigayna qur'aankaan iska shida waa iska soo kacnaa maamadii markii dambe waxaan ku yidhi hooyahe maxaa kugu filan oo business aad ku qabsan kartid waxay igu leedahay 100,000 haddaan helo shaqadayda waan ku noqon waa fikiray 100,000 baan raadiyey 50,000 oo kalaan ku daray maamadii meeshan Mandeeraan geeyey wixii baati adduunka joogay oo dhan baan rarnay oo jawaanadaan ku gurnay maamadii waxaan ku yidhi baska inaad fuushay waxaan diyaaradda laguma fuulayo diyaaradda wala soo eri doona marka baska ku fuul alaabtaada si fiican baan u tolnay 5 jawaan oo dulcada baatiga oo dhan oo joorada ah waan tolnay ilaa hadda la joogo maamadu ii soo duceysay waxay igu leedahay hooyahay wixii adii samaysay inanka yar baan hata gaari ooga iibiyey lacagtii businesskii shaqaysatay gaarigan yar yar oo u barka ayay inanka u iibisay kii lagu laa shaqa lagu raadin inanka waxay igu dhahay habar Khadiija hay habar ilaahay maalin kasta hooyo markay soo kacdo way ku soo duceysaa waxaan ku dhahay kulligeen ba ilaahay ducada hana wada gaarsiiyo waan ka soo tagnay taas hooyo biyadahan marka u sheegi raba iyo ninkii gafanay ninkii sanata hooyo maadaama aad qof aad ku leedahay from Northeastern igu kaale Nairobi markaad baarlamaanka niligu imaadana askar ay taagan tahay oo dadka lagu leeyahay hakuna guryihiina marka la tagona dadka laga soo weynay hooyo dib weyn bay Soomaalida ku qabaan hooyo Soomaalida ay ku leeyahay kaale Nairobi horta Nairobi marka la imaado waa la wareeriya maamada waxay dhigirtay maalin kasta wareer bay haya hooyo ma socon kari gawaariyadahan faraha badan iyo mootooyinkan ayto waan ku wareeraabay dhahday waana run Nairobi haddaad aad u aqoon waad ku wareeri adiga haddaad isnimaanta tagto wax dhimaan adoo daalo adoo maskaxda ay ku xanuunayso adoo Nairobi degan weeyaan qofka imaaday Northeastern maxaad u markuu Nairobi imaado qof weyna arta yareer ka soo tag uu daaliya hooyo marka waxaan dhihi lahay dadka balanta aad siinaysin balanta laga daayo hooyo dadka waa masaakiin dadka waxba ma haystaan balanta beenta oo la siinay dadkan waalidiinta iyo odayadaha iyo maamooyinka Soomaalida ha laga daayo marka hooyo Soomaali waa dhibaataysan tahay ummadda dhan way dhibaataysan tahay waxaad maqli kartaa qof kugu dhahay cimro 2 jeer baan bishii taga haddaad aragtid lacagta cimrada uu ku baxayo hooyo hadduu u qaybiyo ilan 1,400 mise 1,100 baa lagu taga hadduu lacagtaas qof qaraabo uu siiyo soo business fiican kuma bilaaban karo ya hooyo hadduu dhalinyaro uu siiyo walaashiis carruur ee dhaleen abtiga ilmo uu dhalay eedada carruur ee dhashay soo dad badan wax looguma qaban karo hooyo bishan intaan cimro tagi lahay haddaan ilmahan siiyo wuxuu ku qabsado bishan kale ilmahan kale aan siiyo ilan bishii haddaan 2 jeer cimro tagayso hooyo dambigan waa inaad iska soo dhaqaysiin waa kee hooyo ma dad baa soo disheen hooyo ya hooyo wax weydiinaa maamo qofka wanaagsan adigoo kala ma arag dad badan wanaagsan jiraan dadka ka faa'iideystaan sax dad waxay jiraan been sheegada si ay u caawisid ama wax u sameeyaan soo taas lama kulantid adigana sidee dad oo yani baahidana sheeganayaan bahayninba waan la kulmaa qof wanaagsan lagu faa'iideystaa jiro gabar baa hadda ka hor waxaan maleynay Oromo iyo Booran inay tahay laakiin ninka ilmaha ka dhalay waa Soomaali oo qamri cab oo xashiishad cab oo bangi cab oo qashin qaba waxay soo gashatay taamboni oo food color ay ku soo daadisay mindhicirkiisan isu haysaa wadada dhexdeeda meesha police station ka baartay halkan ay burhaanka soo horjeedkiisa waa xalay taandale markaana xalay taandale ilmihi yara guriga ii dhex jiifaa wuu dhintay subxaanallah gabadhii baan meeshii taxi ka qaaday waxaan yiri gaarigayga meesha lagu dhaqo dibadan burhaan agtiisa ayaan parking galiyay taxi baan u yeeray soo bax baan ku dhahay gabadhii baan wholesale galiyay raashin baan iibiyay 18,000 gabadhii baan gurigeeda tagnay markaan guriga aan tagay waxaan rabay 10,000 inaan si ilmahan aan ka soo aaso bal ilmahan qaba oo soo aas oo kariyokoodan keen hog yar waa la heli doonaa markaan meeshii la tagay wuxuu ninkeedii baa ii soo baxay 5 oo kala madax waaweyn ah oo tooriyada wata ayaa soo baxay waxay igu dhaheen alaabta dhulka dhig wax walba dhulka dhig adiga la noqo wallahi bila hooy marka wax kasta waa la kulmaa hooy shaqadeydana ma hooy waa horaan uga socda yani dad badan waxaa jiraan aad u wanaagsan oo inay dadka caawiyaan rabaan laakiin maraa la khiyaanayaa qof caawiyeen oo kale waxay arkayaan oo xumaaday ama qofa maanta dhib kuu sheeganayo waa caawinaya 1 sano kadib ama bilooyin kadib wax arkaysa isla qofkii oo qof kale oo agtaada jooga oo kale wixii weydiisanaya bilaayadii u sheegaya haddana maalin kasta waan arkaa taas marka qofkii wanaagsanaa wuxuu hada isli oo kale markaan tago khiyaanadan u arkaya qofkii wuu isbedelaya markuu leeyahay qof caawinaya waa la balanbal waxa soo dhan waa la kulanaa adii dabeecadaadii wanaagaaga wixii lillaah u sameynaysa marna isbedelo ina isdaba yani qof ku xumeeyay ama ku khiyaanay wanaaga ka faa'iideysto kale kuma bedelayo maya maalintii dadkan Oromada Booranka maxay ka qaateen ay qaateen lacagtii aan wadina waa siiyay raashinkii dhanna dhulkaan u dhigay
nin wiilka kalena wuxuu igu yiriyo maamahayna usiangalia nyuma sasa waan ku yiri waxaan ka baqday mataqaana tooridu wada inuusan u yiri halka shub iga dhacdo ninkii taksiilaha kuwii wuxuu yiri nani amitulete hapa ni mahali mbaya kabisa Nairobi ila isagana uu yaqaanani ma aqaan Shakeshandri marka hoos loo galo ma artay Kiambio la dhaho Kiambio wiliga ma maqashay meesha waa Kiambio meesha ka buuxaan soo booranta oromada jalwada qashinka dhan iskugu imaadaan waa meel ilaahay xaaladiisu u yahay ila lamaba galoba kan gabadha yar xasuusto waan iska qosraa sidee u yartaa iyo sidee anigoo qof weyn oo waayeel aqliga iga waan iska qosraa ninka wuxuu igu yiri kwani ujajua hiyo kitu alikuwa nakudanganya nitajua saa ngapi baan ku yiri naagtu yareed gabar yar bay ahayd ilaa gabdhaha 27 jirka ilma iga dhintay meydkii baa guriga iyo aniga waxaan yiri kaale soo as ilan ma arkaysaa halkan Pumwani Hospital gabdho yaran marka la dhaho ilmiina uu ka dhintay dhakhtarkana way iska bixin la ayeen waan tagaa siba Soomaali yihiin oo gabdhaha yar yara meydkana waan u soo aasa iyagana wax baan siiya meesha u socdaana raashin baan ugu iibiya waana ka soo bixiya iyagana meydkana waan u soo aasa marka maba kala jeceli waxaan dibka faraha badan maba eegin marka adaa iska taga mise maya wala ii soo sheega maamaan meesha dhigay waxaan arkaa daarta qof Soomaali oo dhibaataysan oo dhakhtarka iska bixin waaye ilan hooy lacagtiisa baa iska yar soo taqaan waa 7500 waa 5000 waxa lagu dhalaa ha beeshankii iyo dhacaskii alaabtaadi waad sii iibsatay waa dhalmada ilmaha laga qabanaya kaliya haddaad caafimaad qabtid 2 maalmood kadib waad ku baxaysaa haddii qaliin noqotana qalliin haddii noqotana waad bixin way sameeyaan way sameeyaan ilaahay baa laakiin iimaba tusaba gabdhaha caadi ku dhalay oo ilmihii ka dhintay gabdho meesha ku jiro oo lacagtiis ka bixin waayeen 7500 8000 waad iska bixinaysa waad ka soo bixinaysa meesha gurigoodana waad geyn raashin yar oo half baad u iibin 25 kg skoontaad u iibin burkaad u iibin boshadaad u iibin always kibaad iibin duruuc baati baad u soo iibin waxa leedahay fiisi bilaa meesha nolosha ka bilaa Soomaalida ha arkin inay dadkanayto ee meeshan ay ka buuxaan oo Soomaali way ku dhibaataysanta Kenya wax ogna ma laha wax ogna ma laha hadda soo ma arkin Ramadaan in la soo gelayo waxaad arki kartaa qof lagu leeyahay bishii kaliya cimri 2 jeer buu tagaa markaad aragtina ummadda dhan way wada gaajaysan hooy lacagtan cimri lagu tagayo soo dadka looma qaybin karo horta qofka lillahi wax u qabanay wax lagu gartaa mataqaana qof kaligiisa is wada aragtid waa wanaagsan yahay laakiin dadka NGO-da ku jira oo kale sometimes maya dadkaas waa waxbaa laga sheegaa maya ilaahay NGO wuxuu leeyahay ilaahay nama siiyo hooy ilaahay nama siiyo orodka aan kaga cararaya Soomaalida waa laga qaadi karaa waad u tagi kartaa waxan iyo waxan baa jira dad badan baa saaxiib la ahay waan ka qaadi karaa laakiin waxaan uga qaadin qofkii hadda ani hor istaago aan arko anoo wax bixinay wuxuu yiri maxaad u siinaysaa waxan waa gaalo hooyo marka waxaad arkaysaa inuu wili qofkan maskaxiya ahaan u xanuunsan yahay qofkan waxaad siinaysaa ilaahay baa abuuray gaal iyo muslim wuxuu ahaado ilaahay baa abuuray dadkan sharaadiin maaha dadkan ilaahay baa keensaday ilaahay baa irsaaqadooda qoray qofka wax ma siinaysaa dadkan waxba xasin waa gaalo ma tukada yaa kugu yiri adiga tukataa oo ilaahay adigu idino siiba Soomaalida waxay u yaqaaneen qof waliba inuu shaydaan yahay ina iyaga kaliya ay yiin dadka jannada galiyaan hooyo waaba dhaqan ee Soomaalida ee leedahay haddii hadda arkaan gabar yar oo iska qamaar la'aana waxay la soo taagan yihiin waa shaydaamad Soomaali maaha waa Oromo dhahan waxaad arkiyo TV TikTok waxa soo galaya gabar Soomaali oo nin adoon uu qabo inkira waxa daadin waa Oromo iyo Booran maxaa hooyo dhibkan keena waa Soomaali choice kana iyada iska leh hooyo choice iyada iska leh gabdhaha oo dadka ajaanibta guursan Soomaalida waa ma jecla ما يهوي هتشعلان لكن إياه دورتي كو قدري ها كو حشمة هوي عينين هوي نكنا يتوا أدون أدي أدون بعدو أركتها لكنه أدون إلهي نكنا وحلاقي ربا وويسترن أفريقيا وهنين مسلم أديك الدين توكاب بدي هوي نين مذو وفالحون هأركنا لسه بودين هوي وقال يا واحد قفلي بهوي وحي جاي هذا من مركز قاركود مركز الموت تمها سيد ديستي وحلا هذا وعروتي سوبر باور المها تشويس ولاية أنا قاعد عروبان درنا عروبان أيه ونهاي marmarka qaarkood adoo dhar u soo diyaarisay ayuu qofka ilmihi yar wuxuu ku leeyahay dharkan ma rabi waa daynaysa hooyo u sii daa ilmaha yar choice-kiisa soo qabsado ha xirto wuxuu rabo qofka lagama qaado xuriyadda hooyo Soomaalida dadka dhan beerba inay xuriyadda ka wada qaadaan inay remote-ka noo wada hayaan remote-ka sidana u socdo dhinacan u dhaqaaqa dhinacan imaada hooyo looma baahna qofka choice-kiisa waa in loo daayo hooyo qofkana ay too hadda aragtid sidoo u socdo adiga soo gelin hooyo arur baad dhashay kuwaada u turo ma oo imaanta dhan ilmihi aad aragtid inaad waxan ka sheegtid wiilkii aad aragtid oo timaha sii deystay timaha galaantay adahdi ilmahan ay too ma yahay adi shaqadaada ba hooy dambi un baad ka sii qaadaysa dambi weyn baad ka sii qaadaysa haddaad waanin kartid intaad kaligiis u yeertid aad ku dhado hooyo sidan iyo sidan hooyo sidan iyo sidan wiil Soomaali baa tahay nin fiican baa tahay kan iyo kan adigaan ku sugayna gabdhahan oo dhan aday ku sugeen ilmihii waani laakiin inaad dhahdid waa carruur shaydaan waa carruur kan waa gabdho kan ma yahay ha soo gelin afaara dadka Soomaalida waxay rabaan dadka inay remote-ka u qabtaan sidaan u socdo iyo sidaan u socdayo kan maxaad u guursatay iyo kan maxaad u dhaqay ma yahay arab markii la guursado waxa lagu leeyahay waa nin fiican Western Africa marka la arko waa la wada kacaya timaha wada istaagaysa ya kuwan ku ag
jooga maad kuwan idin ag jooga maad gursatiin oo Nairobi ka buuxoy tan maanta dhan TikTok ayda ka dhacayso waxa leedahay yaa ku dirsada hooy dambigooda maxaa ku dirsada adiga hadee nin ajaanib ay gursato hadee nin carab gursato hinti hadee gursato adiga maxaa ka galo hooy waxba hadi kaama gelin adi sheekh matido meesha waan uma taagnin ya ada koor waxa jireeyo sheekh wuxuu arkoba dhan ka qaylin jiray hal gabar isaga u soo hartay mala afartu dhal rag wada jeesh wada adoomi baa wada gursatay hooy nin sheekh buu ahaa masaajidka ayuu imaamka ahaa maanta dhan wuxuu arko maanta dhan isaga gabdhuhu ku mashquuli jiray gabdhahanayto Soomaali sheekh waa sidan waa gabdhaha waa kan hal gabar oo ka baxday malaha wixii guursadeen wada jalwayo balwiyo hooy wixii asaga dhalay asaa laga jaray hooy ha mashquul lagu ma noqdo hooy mashquul haddaad ku noqotid adaa waalan doonta adigu waanaad ku leedahay qofka isagoo kaligiisna waad waanin kartaa laakiin haddaad ku waanisid dadkii oo buuxo waxaad ogaataa arrinta way xumaan doonta saad u malaynaysid ma noqonaysid hatta wuu ku cayn karaa qofkaas ayto xaq u leeyahay bas wuxuu arkay inuu ku xadgudubto ku dirsaday wuu kugu dhigi karaa ima waanin kartid hooyaday way arkaysa markaan gurigeeda ka soo bixisaan u eka adi miyaa i dhashay ayaa kugu filan hooy sax ama waxa ku weydiinaa adiga wanaag badan samaystay inaad sheegatay marabtid maanta maadaama barnaamij joogtid su'aalaha kaa weydiinayna dadka waa ka cudur daaratay kaamirada gadaasheeda xataa waxaad tiri waxaan inaan ka sheekay marabi nagu qaado maadana ku weydiinay moogtaa يعني dadkii u fahmin in aad waxa samaysatay sheegooshid ma aha macna sadaqada waxa la sheegaa in faa'iido badan leedahay saadiyaad adii faa'iidooyinka aad wanaagan badan iyo samafalkan badan aad samaysay wax oo yani mucjiso ama sadaqadaas ay ku tustami jirtaa ama aad ka aragtay horta caawiskayganay tahay hadda ma bilaamanin waxaan u malayn 20 years ago buu soo dhaafay wiilkan hadda iga dhintay mawjadaan kugu leeyahay 10 sanadood buu xanuunsanaa uurkiisa anoo bille ma aqaani malaytatul qadar ba ma malaa'ig ani la ii soo dirayba ma wax ani un la iigu soo toosiyayba uurkiisa anoo bille ayaa horta Soomaaliya meero isdishay meero town baan deganay ma waa laga soo qaxay waxa la yiri Soomaali si u dhan tahay anooga baxdo dhulkeena waa la qaxay meeshii u dhaweed oo dadka tageen waa Isiolo ayaa ku dhashay adiga ana ku dhashay oo ka imaad oo si fiican oo qano iskuul ku soo akhristay Isiolo markaan ku dhashay aniga guri ay habrirtay ee leedahay ayaan hore ka galay waxaan dhahay un guri hala iisi banay qol iyo birsad baa meesha jira qolkiyo birsad aan ku tuur sariir iyo flash kun baan iska dhigtay alaabti gabigeeda waan ka soo cararnay ilaan dadka ay tawaran iyo mindi hadii la soo baxaan ani caruurteeda yaa la iga dhamaan wala soo cararay Isiolo markaan imaaday hooyo uurka waxaad u malayn inuu mucjiso igu ahaa uur mucjiso weliga ma maqashay uur mucjiso ahaa hooyo sidaan uurka u qaadayba isagoo hal bil ah ololba i galay jirka dhan ma seexan kari waxaan noqday qori oo kale qofkii eego wuxuu leeyahay ma xanuunsad gabadhan idma AIDS bay qabtaa AIDS baa igu tilmaamay hooyo AIDS qof qabo gebigayga inta nafti iga dhacday wajigayga kaliya qofkii arko unbuu garan inaan Khadiija aanahay uurkina waa bil ogo anoo habeennimadii seexan waay oo albaabka agtiisa fadhiyo ayaa 8 saac habeennimaan iska soo kacay halkaas intaan iskaga tukaday Isiolona way kulushahay laakiin noodistan oo kale ma way kulushahay dhinacan nyaanyookiyo dhinacan biqabow ka soo gasha habeennimadii dabeel banaankan iska fariistay dabeeshii hal gabarna waan wata hooyana laba ii haysa Nairobi hooyo degan tahay labadii caroodan haystay yar sariirta ku jirta calooshayda waxa ku jira wiilkan hadda dhiman doono dibadda hooysan u fadhiyay waxa soo gashay maama gaaban oo dhar cad xiran waa 8 saac habeenimo ogo 8 saac habeenimo ماشي وان تكذي وحن تكذو أكتيدي سو استكتو حيقول لي السلام عليكم عليكم السلام حيقول هذا عرور بان هيستوي باحنين وحبا نقوص دونتي وان قال يقول هاويو راشين يربان سو عروري تدوكن يوم قريب وحن هيستي مزيغا مالتا إمادة تبنكم بإيدي بي لبكن وان استعمالني تدوكن باميشة تالي شنتي كن بان سوقة وحربا ما مدى إنان سي يراشين كان إنان اسكو قدر ماشي أنا سيدي أفديو لعقتي ما كان لصو بحي قفكي وان واي هاي gadaashayda waxaan qof baa sidan ii taabtay dhabarka waan sii jeedaa ogow dhabarka qof iga taabtay waxay ku dhahday uur maha uur baad leedahay soo ma baan ku dhahay meeqa bilood hal bil waxay ku leedahay uurkan waad dhali doonta inama xanuunsanna waad dhali doonta 16 jirna maalintu gaar wuu dhiman doona mucjisadaas wallaahi billaahi hooyo waxaan ku tusi karaa deedku ilmaha yar iga dhintay bilaal baa la dhahaa qabriga maalintii baadadheegiisa 16 jir buu ilmaha dhintay waa mucjiso baadadheegiisa maalintii mucjisada ahayd 15 soonka ah taariikh 20 buu dhashay taariikh 20 hooyo wuu dhintay yarkaas
16 jirkii ay igu dhahdayna wuu dhintay hooyo bariiskii iyo lacagteydii bartii anoo hayo gacanta ayuu qofkii haddana lumay ma arkin hooyo ilmaha waan dhalay sidaan u dhal waa ilmahan aan kugu leeyahay xanuun buu u xanuunsaday laakiin se markaad aragtay physical uu caafimaad qabaa 16 jirkii igu dhahday wuu ku dhintay xanuunkiisa 12 sanadood baan jiidayay markuu sanad 1 iyo 2 horta naas muu shaqayn ilmaha yar naas afka muu saarin hooyo markii jimco la gaar aan caruurta dariska oo qamiis xiran waan ooyin jiray hooyo jimco waliba waan ooyin jiray ilmahan fadhiyo qeyrkiisa waa kuwan socdo oo masaajidka u socdaan oo isku sanadiyay markaan arko ilmo agtaydan bara oo 10 jir oo kana 10 jir iyo waan ooy kooyo 10 jirka markaan arko markuu gaaradana waan maalin kasta jimco kasta waan ooyin jiray ilmo yar oo Soomaali markaan arko isagoo qamiis xiran oo masaajidka u ordayo kana uu ii fadhiyo waan ooyin jiray maalin kasta waan ooyin jiray markii dambe ilmahaas yar oo iga dhiman doono Indian u qaaday markuu 8 jir ahaa 6 jir Indian u qaaday 2 jeer India markaan u qaaday dhakhtarkii aan u qaaday ilmaha yar mataqaana markaa dhakhtarada lacagta la aad u qaadid wheelchair dad baa kugu keenaya loojinka ayaa waxaan ka kareysay dhakhtarka dhexdiisa Apollo Hospital la dhaa dhakhtarka wheelchair la igu keen waxa la igu yiri appointment kaada maanta wayaan 8 sax wheelchair lagu qaaday ninkii Hindiga waaba iga hore dig waaba la fuulay inaan kiraa uu la tagay dhakhtarka waan ka soo daba carray dhakhtarkii baan u galay dhakhtarka inaan ka yar markuu eegay banyaani buu ahaa la ubu caabuda muslim ma ahayn hindidii aan muslim kama way eegay warqadiisii wax waliba dhiig laga soo qaaday wax waliba eegay wuxuu yiri maxaan kugu qanacsiiya waxaan ku sidii aad aragtid wuxuu yiri ilmahan markuu dhalanay masos kuma dhalanin Soomaalidana markuu qofka xanuunsado waxa dhahdeen waa la sixray sixirkaad aaminsantiin wax baa lagu sameey aaminin buu yiri ilmahanayto cudurku qabo waa masos disease buu qaba muruq kuma dhalanin waxaan rabaa inaad caloosha aad furtid berito qalitaan baan gelin halkaas ay ka qalay masos kan buu ka qalay sanaytu u kala furay wuxuu yiri wuxuuna ay tusay qof masos qabiyo qof masos qabi ilmaha miyaad u jeedaa inuu masos qabo ma yabaan ku yiri wuxuu qabo malaha buu yiri ilmaha guriga kula noqo ilmaha ilaasho ma dhaafi doono 16 jir waa kelmadii la igu yiri habeennimadii aan dhalay ma ahe wallahi kelmadii la igu yiri isagoo uurka hal bil ku jiro ayaa kelmadii la igu yiri hadana dhakhtarka waa nin loo caabuday oo hindi oo internet ugu antaay waa Apollo Hospital wuxuu igu yiri ilmahanayto hadin waa la sixray hadin ilmahanayto wax baa lagu sameeyay Soomaali marka tiin sixirka aad baad u aaminsantii waan idin arkay ilmaha guriga kula noqo ilmahanayto masoska ayaa ilmahan waxaan halkan dig markuu wadnaha idin bodbooday waa masos buu yiri masos kanayto ilmahan kuma dhalanin masos kanayto ilmahan intan horu hadda kaga jira intan hoos oo dhan uu ka dhamaaday buu yiri marka 16 jir ba dhaafin doono ilmahan waa wax caadi u ah marka dadka xanuunadaas qaba masos qaba maamadana maxay igu dhahday ilmahan oo bil ku jiro calooshan 16 jir kuma gaarayo lacagtii wixii aanu soo wadan way isku dhamaatay qofkii waan waay wixii aanu gacanta ku hay wixii way tageen ma laytatul qadar buu ahaa ma wax aan la ii soo diro wax ii si sheego ilmi yaraa markaan la imaaday hooyo waxaan ahay qofka ilaahay ku qanacsan baan ahay ilmi yaraa waan haystay waxaan u soo iibiyay wheelchair oo hoosta saxar laga qaaday oo kursi oo la siixin oo la fariisin oo design ah ayaan u soo iibiyay waxa muruqasan loogu qaado gacmaha ayaan ka soo iibiyay India waxaan maqnaa 22 maalmood waan soo noqday wixii baan soo iibsaday waxaan la soo noqday waxaan la tagay $25,000 waxaan soo isticmaalay 3,000 kaliya 22,000 waan la soo galnay Kenya dadkii waxay arkeen anoo Kenya dhex taagan khadi jamee waxaan ku yiri Bilaal waxa la yiri caafimaad doona ilmaha yarna inuu maqlaan diiday mataqana Bilaal caafimaad yarkan waxay weydiin hooyo maseeman in amesema u tapoona war caafimaad Soomaali ma yaqaan ma uu yaqaan af Ingiriisi Soomaali uu yaqaan hooyo dhakhtarka muxuu war caafimaad baan ku yiri dawayaal buu isoo vitamin iyo wax walibana ana soo iibi wax isagu ii soo qoray dhakhtarka ma wuxuu yiri dawa aan ku qorayna malaha ilaahay intuu ku sheegay in fiican waa ninka waa kuwan loo caabudo dhakhtar been kuma sheegay wuxuu yiri waxa Nairobi dhakhtarada Nairobi been looyina ha wuxuu yiri ilmahan ma caafimaadayo ilmahan iskala tag ilaahadana ilaahay soo ma taqaanida oro ilaahada ilmahaada hayso umeer markasta duug masha ya massage sidii dhacad nin massage baan u qoray markasta wuxuu soo gali jiray wiigi 2 jeer wuu massage gareyn jiray kursi baan u sameeyay wheelchair baan u sameeyay maalin kasta carruurta markuu iskuulka u xiran yahay banaankan u bixiya carruurta dhan karyoko dhan agtiisa ka buuxaan marka karyoko aan degana
karyokowna ku dhintay wixii karyoko jooga dhan carruurta dhan agtiisa istaagayaan wala ciyaarayaan way jecelyiin maanta dhan buu u sheekaynaya waa nin maskax mirana wiil jeegiisa cagaha mar baa kor loo kicin mar hoos baa loo dejin si waliba siduu rabo hadduu rabo banaanku iska seexanaya so madaxiisa wuu fiican aad iyo aad jirkiisa dhan oo dhan hata lugiisa ma dhaysi wuu buka mana kacayo socodun baa meeshii ku jira caata ma iska normal carruurta dhan ba isagaa ka qurux badan waxaan aniga dhalay oo dhan 16 naagta igu habeenimadii ee igu dhahday ma gaarayo iyo ilmo xanuunsan baad dhali doonta hooyo wixii baan ku dhalay ilmo xanuunsanna waan dhalay 12 sanadoodna waan la rafaadsanaa jimco walibana waan ooyin jiray marmarka qaarkood waxaan dhihi jiray qadiija khamiis iyo isliin baa soonta waay aad u ooyinaysa waxaan ilaahay baa ku siiyay boqolka kale ilaahay ku siiyay caafimaad bay qabaan 7 baad dhashay 6 kale caafimaad bay ku qabaan 2 wiilood iyo 5 gabdhood baad dhashay carruurta kale caafimaad bay ku qabaan maxaad ilmahan ugu ooyinaysa maalintii dambe waxaan dhimo ooyinay ma ooyinay sariir ba kursi baan u fadhigaan dhigay naaqniine waxaan u yeelay nin u meeyriyo dhakhtarka uu masaaj garaynay uu dhigaya qarashkii aan dhakhtarka ku bixin lahaa waxaan ku bixiyay isagoo guriga jooga khamiis walibana diin baa la saari jiray nin wadaad baa soo geli jiray aroorta waxaan u jira samayn jiray qoraa 114 ku tufi jiray ilaa hadda qabrigiisa haddaa tagtid geedihiisa dadka dhan bay dhaafeen qabrigiisaan u sameeyey waa u hagaajiyey markaan tago adana waxaan dhahaa ha ooynin waa tagay bilaal 5 sanadood baa laga joogaa noo baan dhahaa laakiin ma wax dhashaatay waa ooy waxaan tagaa isniinta iyo khamiista markaan soomanaya qabrigaan tagaa markaan qabriga tago ka hooyaan taga kan aabban taga walaalahan taga qaraabadan taga muslimiinta dhammaan u soo duceeya adana ka wiilkayga markaan soo istaago qasab inaan ooya hooyada iyo aabbe waxaan yiri maxaad u ooynaynin ilaa iyagoo dad waaweyn bay ahaayeen kan saqiir buu ahaa waan ooyn adana waxaan la ilaahayo ya afi baan dhaha masaajidkan iska dhex fariista ilaa 10 sax ayaan iska fariistaa masaajidka ma tagi marka waxaan leeyahay marka qaarkood qalbiga waa inaad tustaa inay dad badan ay meesha ku jiraan dadkan oo dhan dream bay ku soo wada kaceen dreamkaas meesan gaarin hooyo adigana dream baad leedahay inaad ku soo kacdid waxa laga yaabaa inaad u soo kici weydaa marka dadkan baan ku soo quus qaataa dadkan baan soo eegaa waan iska ka soo tagaa waa maalinkaas inaad u noolaataa inay geeri mar waliba ay jirto oo la dhimanayo wixii maanta la gaarayo inaad qabtidna qabo wanaageeda qabo oo ka dhaqaaji ma ogid beri ma ogid maanta la hubaa hadda maanta inaan halkan soo gaari doono alla og waan imaaday waan soo fariista xaligu ridwaan ma joogo dana waa ku sugay inaad aragtid ridwaan ha tegin baan dhahay soomaalida marmarka qaarkood hooy uqdad bay nagu ridaa soomaalida aad iyo aad bay dad xun u yihiin soomaalida way rafaadsan tahay Nairobi aad iyo aad bay ugu rafaadsan tahay marka waxaan dhihi lahay ninkii lacag haysto dadkan dabaqyadaha dhistay ku gabagabeynayna dadkanayto sheekhyadahan iyo culimadan dhaho qadar baan u haysanaa basaboorado meeshaanu degannahay haddii inta tagaan carabtanayto oo maalin kasta agentu dadka lacagta ka dhacayo ee dhahaan 100 carruur baan haysanaa aan keenayna hooyo oo Soomaali lagu dhaho naag waliba ilmahee dhashay hala soo istaagto ilmihii basaboor haysto hatta tigirka la soo baxa Soomaali ma u malaynayso inay joogsan lahayd maamo waliba wiilal baa guriga uga buuxa way wada bixin lahayd hooyo hatta tigirka la soo baxa lagu dhaho Soomaalida anaka keena sharciyo wax waliba aad ku tagileen iyo viisooyin oo Soomaali ma harid dhulkan carabta kaliya laga buuxiyo hooyo carruurta Soomaalida inta wiil oo Soomaali oo meelaha wareegsanaysa oo shaqo la'aan waa meeqa hooyo oo gaajo u dhimanaysa hooyo hatta waxay cunaan ma haystaan carruurta siiba dhalinyarada magaalada ku rafaadsan gabar ma taqaana guri habar eeleeday ayay iyo eedo bay tagi iska soo shaqayn gurigaas ay tagi hadeerto shaqaalaha ka noqoto oo tuliyonkeeda ha ka hesho naag bay u tagi dukaankeeda u soo iibin laakiin wiil hooyo waa ku rafaadsan yahay adduunka wiilasha ku rafaadsan dadka laakiin ma ogataas may hooyo dad badan ana waxaan leeyahay maanta ilaahay hadduu ilaahay maanta xoolo isiin lahay hal qof oo Soomaali oo dhibaataysan lama arki leen totally ba hooyo kuwa waalana meel baan u sameyn lahay kuwa xanuunsana dhakhtarkan geyn lahay kuwa caafimaad qabana meel baan ku xareyn lahay waxaan dhahay ilaahay un baa tiila lahaa ayuna siin waay ma ogiye laakiin Soomaali meel baan u yeeli lahay laakiin intaan haysano waa u qabanaa haddaan intaan islii soo galno qof waliba uu kugu dhaho hooyo kan ma haysti hooyo kiradaa iigu go'an 5,000 baa iga dhiman hooyo kan baa iga go'an hooyo shaqadii baa iga seexatay mid khudaar iibinaya banaanka fadhiya oo jawaan fiyaasi buu soo qaadan jiray maanta jawaan fiyaasi ma soo qaadan karo haaf buu soo qaatay gabar baa dharka calalaha gacmaha ku iibsanaysa sidikaanso markay tay ordaysa 2 iyo 3 baa ka dhacay waa faydadii cun lahayd baa ka dhacday hooyo qof ogna ma laha hooyo qof og ma laha hooyo dabaqyadahan ay toodhan marka la leeyahay dugsi baa la sameynaya mise madrasa la dhisay hooyo BBS la soo galayo lacagta la sameynay hooyo madrasa hooyo roog baa ugu fariistaa kitaabada quraan 10 kun kama badan hooyo billions of money lacagtan la aruriyo hooyo carruurtan baa wax loogu qabto wiilashan yar dhalinyarada iyo gabdhaha waa su'aal muhiim ya hooyo waa su'aal muhiim hooyo lacagtan la arurinayo markii election la gaaroba
oo la leeyahay BBS la iskugu imaado mise hoolkan la iskugu imaado oo nin waliba ilaa madaxweynaha oo 5 milyan soo dirayo oo ministayaashiisa 3 milyan 2 milyan iyo in kan aad wada dhigaysiin 50 milyan hooyo meeqa carruurda Soomaali wax loogu qaban lahay marka leedin madrasa iyo dugsi waa soo dhisan madrasooyinkan iyo dugsiyadaha Namaanga iyo Kajiado way wada maran yihiin hooyo kuwaas carruurta ma lagu xarayo yaa hooyo carruurta dhalinyarada iyo gabdhahan yar hooyo wax lacagtan loogu qabto waay ad mar waliba election markuu u soo dhawaado Kenya loo dhahaa wax baa loo qabanaya madrasa la dhisay wax baa la dhisay lacagtan carruurta dhalinyarada wax ma loogu qabto yaa guri waliba aad martid waxa lagu leeyahay Sheekh Hebel Baskale sheekhyadaan iyagoo wax aruurinayaan lama arkin miyaa hooyo waa su'aal hooyo sheekh lacag aruurinay oo leeyahay wax baan dadka tarayna lama arkin sheekh uu soo istaaga wuxuu leeyahay masaajid baa la dhisay Soomaaliya lacag soo aruuriya islaanti dahab iyo lahayd way iibsanaysa dahabkaas qaraabadeeda siisan lahayd masaajidkan oo Ilaahay baa dhisay Ilaahay buu u taaganya adiga kuma taagna hooyo qof aan dad ehel la baahneen ma jiro bala hooyo qof waliba ehelkiisa kale intuu maray hooyo qaraabadii dhan baa wada dhibaataysan ha hooyo dadka inaad iska dhistiin maaha ha familka dib ha loogu noqdo familka dib waxa loo siiyo hooyo culimadan inta barkaan uu sheegay taladaada waa la maqlay waa ku mahadsantahay waqtigaaga gabdhaha iyo wiilasha maxaa kula talinayd wiilasha iyo gabdhaha wiil badan waxa jira ma shaqaysan ma guursan karno gabdho badan oo ayagana waxa jiraan lacag ma haysid kuma guursan karo wiilasha ku xijayaan Afrikana waa la joogaa xaalkan kii aad ka sheekeynayso waxaan marmar la yaaba hooyo gabadhan ay toleedo waxaan rabaa guri cad iyo gaari cad hooyada aabahaba guri cad ma haystaan marka guriga cadalku ka imaaniyo gaariga hooyo ma taqaan labada isku guursato masaakinimada inay barwaaqo ee gadaal ka imaato barwaaqo hooyo ka imaata haddaa xoolo la isku guursadano dhibkeeda iyo qaylideeda leeda ani waxaan dhowr jeer aan arkay aroosyadu waa weyn oo lagu sameeyay 2 milyan lagu sameeyay hooyo oo gabdhihii bil lama qabo waa la soo fura wiilashiyo gabdhaha way soo kala boodeen aroosyadaha ma aragtay sallallahu wa barik lasroon oo ducada yar oo ayaa ka fiican hooyo oo ka wanaag badan hooyo ha gabadha sanadka ugu fiican inay guursato 20 jir 20 shab hadaba jaamacad iska dhamayso gurigeeda ha gasho shaqo iyo masters iyo gurigeeda ha ku sugto gabar 28 jirto wiilin guursan gabar habaar miyaa mise ilaahay wax qeyr badan ha u soo dejiyo malaha calafkeeda sugayso calafkeeda sugayso ilaahay calaf qeyr qabada u keeno wiilkana meeqa laga rabaa inuu ku guursado sanadda 30 markaa maskaxdiisu fiican tahay nin reer maamuli karo weeyaan 20 wuu yariyaa ninka aad iyo aad way 20 wiilashu way ku yaryihiin meeshaas waxaad arki kartaa qof dadkiisa dhan ay wada masaakiin laakiin dadka dibadda iska dhisaya waay dadkan dibadda iskaga dhisaysa qaraabadan ay taa ku aasi doonta qaraabadan ay taa wax ku ah wala runta hooyo ma ogi dad dibadda hooyo waxba kuma sheegayaan hooyo ha lagu soo noqdo dadka qaraabada aroortii waxaad arkaysaa oo sida loo joogo magaalada dhan waxaad arkaysaa wixii nin la soo doortay oo dhan oo siyaasiya wuxuu ku jiraa hodheeladu uu ka cabiyo shaahi oo 3500 juiski oo 2500 waa meeqa shax baa lagu karin karaa way lacagtaas ay isliin dhan baa shax lagu karin karaa afartu kun wixii goysadaa la ilaa meeqa qadar muus oo shax baa lagu karin karaa adiga ku imaado miskiin wuxuu ku leeyahay kireega bix meeqa 4 kun marka adiga waxa ogtay 4 kun inay dad badan caawin leen miskiin laakiin qofkaas waxa laga yaabaa inuu ogeynba ma aragtay bahalkan ukunta lagu karkariyo iyo soo sijeedaha lagu kariyo dadka ee wadaan inta qof aanu iibinay hooy oo ku shaqaystay oo maanta meel ku gaaray hooy xisaab ma laha markaad aragtay qofku ku leeyahay hodheelkaas kaale iigu kaale maqaayadaas ay qof aad malaha balan la lahayd wax baad ka rabtay waraaqiyo waxaynu kaale halkan markuu ku dhaw shaah marka lagu soo iibay waxaad arkaysaa 6 kun baa meesha lagu tuuro halada way 6 kun maxay soo iibin leed ciil baa ku qaban adiga waad xanaaqaysaa hooy halada maya hooy lacagtayto meel fiican bay gelid hooy dadkii ku soo doortay hooy adana hooy mid kala meesha ku jirta dadkan noodistan laga soo doortay ma u jeeda noodistan waxaa ku jira qabiilo far badan oo loo Kona tribe kana ito hooyo maanta hadda la soo gooyo shaqo in 20 wiilod la siiyo murle haduu ya murluhu siin ajuraan haduu ya ajuraan koodu siin ogaadeen haduu ya ogaadeen koodu siin dogoodi haduu ya dogoodigodu siin hooyo qabiilooyinka kale oo Kona tribe oo magaalada ka buuxo waxba looma ogola hooyo ili iyo qubo way soo socota wallahi waxa la leeyahay dhulka waa kulul yahay hooyo kuleelku ilaahay ka keeni doono noodistan hooyo nan la'aan miya ka qaylinayaan iyo biyo la'aan wax ka badan baa ku soo socda hooyo markii roob daana wadada xiranto yaa hooyo ma weligood intay fariisteen ma isweydiin wax dhibkan muxuu noogu idhacaya maya hooyo Kona tribe ka laga soo gaaray hooyo yani Soomaalidana meesha ku nool laakiin lama xisaab hooyo markii campaign kala yahay waa la rabaa Kona tribe shaqada hadii soo dhacdo Kona tribe lama yaqaan hooyo qof marka hooyo qofkiisa hadda dhahdii hooyo waad ku dhiman aniga maanta inta ilmo aan koriyo oo wada gaala soontan aan kugu leeyahay carruurtan baan ka soo siiday jeelka 9 qof baan muslimiin aniga
9 baan muslimiin way caruurtan la xiraya 8 gaalo ma ahayn 4na muslimiin ma ahayn Soomaaliya 8 nayto aniga 4 baa isoo raacday markii laga joogay bilooyin waxay u dheen hooyana muslimiin waxaan ku yiri buugag baan u soo iibinayay alaab baan u soo iibiyay buugagta Ingiriisiga af Soomaaliga inay wax ku fahmaan waxaan ku yiri soo fahma diinta marka soo fahantiin aad ogaatiin inay aad wax ka fahanteen ii kaaleya hadda orod kuma gelayno waxa rabtina choice kooda ayagoo soo buugagti baan u iibiyay 6 street baan tagay af Ingiriisi af Soomaali waxaan ku soo akhrista saddex buug baan u iibiyay waan u geeyay waxaan ku kaaleya guriga waan siiyo waxaan ku yiri soo akhrista marka soo akhrisin arkin diinta islaamka inay macna leedahay markaas ay tahay islaam noqon kartiin mooy hadda islaam baan noqonayna laguma noqdo saas baan ku yiri wadaad baan u sheegay waxaan ku yiri adeer hay wiilal yarar baa rabaa in la muslimiin kuwii la muslimiin ayaa meel la geeyay adeer la waay ka aamus odaygaas ayto wiilashaas ayto markaan muslimiin nin Soomaali baan raadiyay dadka reer Kostiga ayaan ku yiri misehe ii kaale berito 4 wiilood baad ay muslimiinaysa qamiisyadaan u iibiyay masaajidka ugu yeeray uu muslimiyay caruurtii waan la hadlay mid bigi baan u iibiyay bigi mooto aan u iibiyay ilaa hadda aragtid waa ninka muslimka qof kasta oo Soomaali dhabarka u saaran wuu sharfa adoo ku sharfa anu iu sharfa because Soomaalidan adoo ka arag meel ka soo baxwayaan hooy mid kale waxaan ku yiri maxaad sameeysaa wuxuu yiri mutuumbadan iibiya dharka mutuumbada u dhayda maxaad iibsaa marka qabowga jakeedadahan iibiya marka sayto bus baan siiyay 20,000 baan isaga siiyay qofkii hadaad muslimiin soo inaan meelna maskaxda u sii gelisaa sidoo berito gaajada u noqdo gaalnimadii ku dhaxon qamrigi soo qasi doon waxay ku fiicnaan dad dhalinyaro ahayn qamri cabina waxa sayto ma aysan ahayn dad dhalinyaro maama ayaan ku arkay maantii wiilashan soo siidanay maama ayaan arkay maamada 6 sanadood ayaa bloorkeeda dumaashigeedu ka qaatay labadeeda wiilood iyada meel fadhiyo ayaa islaan ay soo istaagtay ma artay mishaaridan ay 20 litarka ay ku wadaan iyo 10 litarka oo laga iibiyo meelaha dad baa loo shushubay anigana meeshaas ay taagna iyadii caruurteedii markii la soo gaaray ayaa lagu yiri man lii shubay waxay dhaheen maya ila lacag ma haystaan maalinka imaadana maxkamadda ninka loo yarka 10,000 buu qaata maalintooda keeskooda loo yeeray maamadii baan iska wareegtay waxaan ku yiri anaa u iibin u jida u shub saddexdoodaba mishaarada ha agtoodii baan soo fariistay waxaan ku yiri maxaa adii meeshan ku keenay kiiskee ku keenay waxay u leedahay ninkayga markuu dhintay dumaashigay baa iga qaatay shaambo waxa la wadaa beer blor dhul ay lahaayeen waxaan ku yiri meeqa sanadood waxay u leedahay 6 sanadood wuuna dhistay bay ku dhahday ninka looyarka ninkaas ahna ninkan dumaashigay lacag buu haystaa macnaanka keeskeena markan loo yeerayo caruuraha wixii yaraa ay ku shaqaysteen iyo bishaas oo dhan waan iska xakameynayna saan 10,000 helno lacagtii 10,000 markan la imaano wax kale ay haystaan malaha transportka ilaahay bay u qabaan meeshii bayna la fariisatay waan hadalnay waxay ku leedahay 300 baan haysta transport aan ka dhigan waan noqonayna lacagta looyarka waa inaan helnaa 10,000 kiiskana 6 sanadood ku socdo haddaad kiiskan iska daysid baan ku dhahay ilan Kenya ba sharciiba ma lahayn qof maanta qofkiisa dilaya berito isagoo dabada socdaa la arkay qof maanta qof kow kasiya berito arkaysa ku dhahay haddaad iska daysidna sharciigan baan ku dhahay wixii ka galo maxkamad warkiisa xir baan ku dhahay iska daa kiiskan ayto waxay u dhahday hay iska daa baan ku dhahay kiiskan waxaan meeshii ku sheekaysanay ayaa waxaan ku yiri maxaad qaban lahayd hadda maanta chance lagu siiyo maxaad qabsan lahayd waxay u dhahday dhuxulahan iibiya dhuxul ayaan iibiya haddaba caruurtan ba dhuxul baan intan ku soo gaarsiiyay haddana dhuxushii maaday dhuxush waxay u dhahday way isku dhamaatay warkeedu dabadihii aan ku iibin jiray iyo jawaanadii baa meesha qolka iigu jira waan eegay maamada waxaan ku yiri beritaan ku imaan doono beritoodeedii aan maamada meesheedii ugu tagay waxaan ku yiri gaariga dhan oo dhuxusha maxaa la siiyaa rooliga dhan oo dhuxusha waxay u dhahday anaka markay noo keenaan dhuxusha waxay naga siiyaan 2,000 anakana waxaan siinaa 3,500 mise 3,100 ilan askartii baa qabanaysaa oo meesha taagan waa laga qaadi kaanjo waa laysan waa kan waxaan ku yiri aniga 100,000 baan ku siin waa ani ahaan 100,000 baan ku siin ninka gaariga waxaad ku dhahdaa gidi ha ku soo dejiyo markuu ku soo dejiyo isaga lacagtiisa ku celi sida aad beritoona aad uga dejiso oo fayda aad meesha uga geshid ilan wax yar oo 100,000 hadaad soo dejisatid 20 jawaan iyo waxaas kama badna gaariga dhan haduu ku soo dejiyo laakiin fayda ayaad ka heli doontaa maamadii waxay igu leedahay raggii ee dhuxusha ka iibsan jirtay ayaa u sheegtay waxay ku dhaheen jawaanku gaariga gabigiisa u meekin half bay u keeneen oo malaha ilaa 400,000 iyo xooga 100,000 bay siisay jawaanadii bay sidii meesha ku daasay maamadii maanta plobox bay haysataa meel bay fariisataa oo kikuyu ah plobox bay haysataa waxaas oo dhan waxaan qabtay ramadaankii gaariga ma iibinay waxaan dhar gaarigan haduuba cimro ku diiday inaad ku baxdid fangare dhamee si u dhantahay ka shaqay lacagtanayto meel uu ilaahay geliyo maamadii maanta plobox bay iibsatay maamadii jawaan dhuxusheeda iibsata caruurteedii labadii wiilood oo meesha la taagna ayaan haddana igu dhahay hooyana muslimiin maadee si tufanya waa islaam
ma islaameen labadii wiilood haddana waan islaamiyey in yar markii joon kitaabadaan lahay buugagtii baan u iibiye kitaabadii baan u iibiye meeshaan uga soo qaado waxaan ku dhahay sii barta af ingiriisi iyo swaaxili markaad aragtiin diyaar aad tihiin isu kahay keena way imaadeen maamadii baa kusoo xigtay waan muslim meeqa qof baan meeshan 4 meeshan 3 waan maamadii nafteeda ma islaamtay maamadii waa islaamtay markii horeba hal wiil waxaa ka dhalay reer kosti ah marka muslimnimada wax bay wax ka garanaysaa wax bay ku jiray maamadanayto maamadii waan muslim labadii wiilood meesha 3 ma iigu taqaana 4 carood meesha 7 ma haya iyo 2 carood oo aniga area sayto wax ii qabta dal waa ku daray 9 qof baan bisha ramadaan aan muslimiyahay masha Mama Khadija thank you very much shukran I hope in dad badan ay kugu dayadaan sheekadaada dhageystaan dhinac positive-ka iska positive ay ahayd positive u qaataan dadka caawiyaan mugti dad badan oo adigoo kale haddii la helo dad badan la caawin karaa soo ma waxaan gacmooda jiray wax ku gooyaan la dhahay aad iyo aad